RPG waa ku rakiban yahay waa daaran tahay kaamiradeedu waa tana saas u socay mar waa tan gudoomiye diyaaradan baalasheeda darontan oo furfuran ayaa dhax taal daroonka hadda inta ka muuqdo gudoomiye waa civil purpose aan ahayn military hardware qalab military inuu ahayn alaabta marka daadir ma ka dalbe ninkaan adreeska soo weydiiyay aniga qofka marka ku dhahay mid taqaanid miyaad qofka soo wax ma aqaan taleefankaaga xayisiinu saaran yahay miya مساج برا معروف واي nimanka busteejida joogo dooraya qabooy waay nin bac wata la hebel kaale mal yaqaano laguna qiyaamo alaabtan oo ahayd machine lagu dhex qariyo alaabtan oo aan la arki karin ishii hore qabatana aysan fahmi karin FBV drone waa la hormariyay waana ay dhaaftay keenis ku eeg xoga basaas iyadoo lagu qalabeeyay walxaha qaraxa ayayna argixisada caalamiga u adeegsatay dagaalo ka dhacay Suuriya Ciraaq Yemen Afghanistan iyo Soomaaliya oo Daesh qaybteeda ku dhumaaleysata buuraha dhagaxa ay calmiskaad isku daygii adeegsiga drone-iska qaraxyada uu ka fashilmay diiwaan ahaana inta la og yahay 2010 ayaa markii ugu horeysay laga war helay in kooxaha argagixisada ay bilaaween inay adeegsadaan drone-iska yaryar ee muuqaal duubista suuqyadana laga heli karo waana ay jirtaa inay mar kale aad u badatay isticmaalkeeda warkaasna uu aad u baahay inta lagu guda jiray dagaalka iska caabinta ee Ukraine kala horjeedo duulaanka Ruushka haddana dunida ay ku tartamayso horumarinteeda qawaariidti ayaa hadda drone-iskan ka dhax arkay dhowr faa'iido waa marka koowaad ee qiimo jaban oo si sahlan loo soo iibsan karo marka xigtana ka shaqaysan karta bartilmaameedyo fogfog iyadoo laga xeelaleysanayo gabaabsiga ku yimid naftood haligayaasha ugu dambeena ah mid si fudud loo dhax dhigi karo bulshada si loogu xasuuqo sidoo kale waxay keeneen diyaaradan waxa la yiraahdaa waa diyaarada oo FBV liirad waa nooca qaada waa nooca duuliye lahayn drone waxay qaadaa oo loogu talagalay in ay qaado qoryaha iyo qaraxyada qoryaha marka dhayeen waa RPG ga lagu rakibaa agab ciidan waa markaan mamnuuc waxa ka qof shacaba inuu la soo dago inuu keensado inuu ka ganacsado only kali waxa loo ogol yahay waa ciidamada qaranka marka waa nooca duuliye lahayn sidoo kale waxay leedahay oo kiyaal laga hawo oo maxkamadda u soo bandhigi doono iyo waxay leedahay computer laga wado baalkan laga wado gacanka ay leedahay remote control-keedu waa kana qalabkan wuxuu ku shaqeeyaa 2.4 caadi ahaan haddii lagu daro modelkeeda lagu daro dibadda wuxuu kala shaqeyn karaa ilaa 900 megahertz gudoomiye oo kiyaalaha laga hagana waa okiyaalahan meeshaada aad joogtida gashane computer baalkan oo remote control-ka qabsane daroontaada meesha aad joogtid hagi kursigaaga fadhisaa oo kiyaali waa ku gashay meesha mareen wala socotaa waxa geeyay bakaaro kale waa meesha rabto waxay socon kartaa ilaa 1 saacadood jaajar ah oo bateriga soo bandhigi doona 1 kg way 1 saacadood oo wuxuu siinaa dib in ay 1 saacadood ay dul wareegto markii ay dul wareegto kadibna meeshii bartilmaameedka ahayd oo aad rabtay markay dul imaado ayada iyo meeshii aad rabtay hal mar isku dhufanay meesha waxa ka dhalanaya qasaaro marka waxa loo adeegsaday dagaalkii Ukraine iyo Ruushka isku adeegsaday waxa adeegsatay dawladda Ukraine 2022 dawladda Ukraine waxay u adeegsatay in iskaga caabiyo Ruushka oo soo weeraray iyada qiimaha waa ama 10,000 ama 8,000 marka waxay dhan isku daro waxay jajabinay oo baabiinay gantaal joogo bilaayin shay ku baabiinay RPG ga lagu rakibaa baterigeedu waa wadataa gantaalga dul imaanay waa dhex galay bul
gantaalku waa gubtay sidaa darteed boqolkiiba 70 waxaa loogu guulaystay ruushka inuu gudaha u galo Ukraine ayadoo iskaga caabinayso diyaaradda noocaana oo FPV yiraahdo nooca marka ma ahan nooc aroosyo lagu duubo ma ahan nooc lagu duubo ma ahan xafladaha lagu duubo ma ahan waa nooc kamid ah noocyada ugu khatarta badan ee loo adeegsaday dagaalkaasina soo shaabaxday waan 2022 marka qalabkan oo kiyaalaha ah iyo kan iyo daroonti marka isku hesho marka khatarteeda waa dareemi kartaa wadanka aan ahan waa dareemi kartaa gudoomiye oo ah wadan hadda dagaal ka soo kabcaayo khatarahaana ay yihiin khatare loogu talagalay isku gumaadayaan dawladda waaweyn gudoomiye waa kan iyadoo baraatika ah kursiyo ku fadhiya remote control ku haystaa oo kiyaalina u xirin kursigan marka daba kor u saaran yahay signalka soo u qaloocan wuxuu la socdaa asigoo meesha joogo meesha uu marayo la socdaa nooca battery ee uu watayna waa noocaas waa hal kg way wuxuuna daweeyka dab uu siin karaa muddo hal saac ayuu daroonta wuxuu siinaa dab uu siiyaa hal saac ayuu ku dul wareegi gudoomiye waatan marka waxa ku rakiban RPG ga lagu rakibay kor waxa looga rakibay batteriga aan sheegaynay oo ah waa kan ayadoo aan xirxirnay batteriga dusha ka saaran yahay batteriga marka wuxuu sameeynaa muddo hal saac ayuu jaajarina qaabka uu jaajarina waa shideena oo kiyaalaan inta la gashto lagu la socdo meesha aad marayso sidoo kale haddii ay aado dhan aan rabin remote controlka wuxuu sahlaa dhanka aad rabto inaad u soo leexiso marka waxay ku tusaysaa qaybta aad rabto saasay marka u socotaa RPG waa ku rakiban yahay waa daaran tahay kaamiradeedu waa tana saasay u socay marka meeshaana dul imaado marka waxay u baahan tahay bis inay sidaan u gasho ay si adag ugu dhacdo iyada markay duusho xawaale zaa'id ku socotaa waa tan gudoomiye saasay u taala qorab baasuuka lagu rakibaa marka ama RPG khatarta ay leedahay marka khatarta ay leedahay maxaa waaye khatarta ay leedahay mas'uuliyad sharci ayaa ka dhalanayso oo ah in lagu argagax geliyo ama lagu dhibaateeyo hawada sidoo kale ay keento khasaare dhaqaale waxay lumin kartaa oo ay sameyn kartaa qalqal hawada ah sidoo kale bulshada ay cabsi ku sababi kartaa maxaa yeelay baashan oo ninka soo duuliyaha ayaan arkeenin meeshay u socotaan aqoolin cidda wadana aadan ogeyn oo ninkii waxa marweyn iska joogo afgoy iska marayso ayaa dushaada imaanayso marka waa cabsi ka weyn ma jirto dagaalada casriga ah ayay ku soo caan baxday waa one way attack hal mar ayay meesha bartilmaameedka ahayd ku burburaysaa ayadana waa ku baaba'e wixii lagu dhiftana waa baaba'inay ujeeddada iyo waxa loogu talagalay maxaa waaye waxaa loogu talagalay adeegsiga ciidamada ayaa loo ogol yahay looguma talagelin inay adeegsadaan dad shacaba inay soo degsadaan looguma talagelin marka waa arrin sharci darro ah in la soo dhoofiyo marka faa'iidooyin ay u leedahay ciidamada oo faa'iidooyin badan ay u leedahay ciidamada inay adeegsadaan in dawladda ay adeegsato rumeeyaashii riyadii argagixisada ee raadkooda la soo afjaray laguna soo simay maxkamadda ayaa jeenaya Soomaaliya isaga xirnaa waxaana la dhaxmaray shirkado gudaha ah oo kaargooga ka shaqeeya eedeysanaha koowaad Cabdisalaan Cumar Cabdiraxmaan oo leh shirkada aan diiwaan gashan oo ka shaqeysa kaargooga ee Saami Kaargo ayaa ahaa xubinta alaabtan ka soo qaaday Jeena una gudbinaysay dhanka kooxda argagixisada isu duwahan baxsadka ayaa macmiil hore la ahaa shirkada Safari Kaargo oo alaabaha u soo qaada Soomaaliya markanse waa uu ka wacday Safari Kaargo isagoo hindisay dhagar ah inuu u wareego shirkad dhawaangal ku ah suuqa kaargooga oo lagu magacaabo Hatuf isagoo ka faa'iideysanaya khibrad yaraantooda shaqo maadaama ay suuqan ku cusub yihiin eedeysanaha labaad Cabdullaahi Cali Abuukar waa maqana haysta dhalashada dalka Kenya waxaana uu dhammaan hawshan soo iibinta iyo dhoofkaba wadaag kula ahaa eedeysanaha koowaad Cabdisalaan Cumar Cabdiraxmaan oo Jeena jooga
sirdoonada iyo nidaamyada X-raayada airportyada dalalka Jeena iyo Imaaraadka Carabta waxaa soo gudbay aadan cadde International Airportna soo galay kow first person view FPV drone nuuca qaraxyada la falgeli karta xambaari kartana culays 7 kiilo oo lagu soo dhex qariyay makiinada qasabka iyo birta hilibka shida labo gaagalis oo kiyalka digitalka ah oo la falgelaya FPV drone iyadoo la marayo xiriir software Betafly saamaxayana in la helo dhammaan macluumaadyada droneska sida bartilmaameedka iyo muuqaal duubis 5K ah lagana kormeerayo dhammaan dhaqdhaqaaqyadaasi iyo kuwa kale oo dheeri ah oo kiyalka gaagalis saddex Subriser ama silencer cod caburiyo lagu xiro qoryaha AK-ga noocyadooda Soomaalida ay u taqaano raashka iyo M4 qaybihiisa kala duwan oo Team PUBG Mobile iyo Somali Gamer ba ay fahmi karaan qalabkan waa se dhaafi kari waayay isha sirdoonka ee airportka aadan cadde ka howlgala qalabkan sida sawir ka muuqato waxaa la yiraahdaa dhawaaq caburiye saddex shaqo ayuu qabtaa waxaa lagu xiraa qoryaha AK47 waliba kuwa afka jeexa wuxuu gudoomiye afkaas hore ayaa laga furaa marka la furo saasa loo gelinaa saddex shaqo qabana marka wuxuu sameynaa shiishka cabdira meeshuu taagan yahay kama halaabayo mana ka leexanayo waxaa soo saaray wadanka Mareykanka shaqada koowaad waxa waaye waa in shiishkoosi uu yahay oo qoriga jugt uu dhahaye oo laga yaabo inuu shiishka kor u dhigo ama hoos u dhigo ama meel xubin aanan doonayn inay kaaga dhacdo ayuu sahlaa in xubinta aad rabtay de madaxa ahayd haday isha ahayd haday sanka ahayd haday wadnaha ahayd inay kaaga dhacdo qalabkana sahlaa lambar 2 wuxuu sahlaa in laamaha amniga aysan arkin meesha xabadda ay ka soo dhacday oo wuxuu qarinaa hulci xabadda habeen marka la rido waxaan ogsoonahay in hulc uu ka baxo hulcaas waa qarinaa sidoo kale wuxuu sameynaa dhawaaq caburiyo waay zuk soo dheesay ama bul soo dheesay in lagu dhacday in kale ma la kala ogaba dadku waa iska fadhiya markaas adna kugu dhaha waa kugu taala meel ka soo dhacan lama yaqaan waa qalabka marka mid gudoomiye qalabkan waxa soo saaray wadanka Mareykanka asal ahaan shiinana waa sameeyaa alaabtan miska dheena maya waa kan qoriga lagu xiray way ku xiran tahay qorog AK47 ku xiran tahay afkaas ugu xiran tahay marka iyadoo afku ugu xiran waa markaan dhawaaq caburiyahan qiimo ahaan wuxuu joogaa lacag $1,000 waa dhawaaq caburiyahan wuxuu ku qarash yahay qorog AK47 muhiimadda uu leeyahay marka aad u dareemaysaa qorigi ayada isku lacag waa marka ujeedka laga leeyahay in bahal $1,000 joogo mamnuuc ah in la soo geliyo wadankii waa dareemi kartaa mid gudoomiye waa ujeedo argagax gelin ah oo ummadda masaakiinta in lagu dhibaateeyo ee tahay mid gudoomiye qaabkee loo keeno marka waa soo laabano maadaama aan fahnay waxa ay tahay iyo dhibaatada ay leedahay qaabkee loo keeno wadanka qaabkee lagu soo geliyo أو مان وحلو سوق الشيء ماكينة أو دبهانتي أنت تالو ماكينة واتاسا أيضا مركل في فرن واتاسا وقاب كل سوق اللي ودنك وعندما أمنوا أي خبتين جيت كوين أو ماكينة قصب كشيدة أو سيد الصور كم وقته أيال لحقل شيء قاب كله لحقل شيء ما شان فرن وإسكو حرنيت وحنا كو حرنيت بولولي كو حرنيت بول هان مركب انت لا فر بولشي ayaa la dhaxgalay waata marka iyadoo aan sawir ka qaadnay waata markuu ku dhex jirto adartan sawir sidoo ka muuqato waa ku dhex jirto waxa arkaysaa mid gudoomiye geedkana arkaysaa way ka muuqataa sawir waa marka la qabtay sawir laga qaado sidoo kale waxa la socdo makiinada hilibka la socoto oo taalo waatana iyadoo la furfurayn iyadoo la furay oo baalashi diyaaradan baalasheeda darontan baalasheedan oo furfuran anaga aad isku xirxiran oo furfuran ayaa dhex taalo bateriga waa gooni kan waa gooni baalashaana waa gooni si oo ala bolbol loo furay meesha lagu dhex daadshay marka waata iyadoo la soo bixinayo
calaa baala laga soo bixinaa baalkaa laga soo bixinaa waa baashaan baasha la dhex gashay baterigaa laga soo dhexbashay baalashaasna waa baalashaan gudoomiye marka waxaan rabnaa qaabkuu ku ogaaday garoonka diyaaradaha aadan cadde ciidamada amniga ee joog qaabkay ku ogaadeen ma intaa digis baalku fureen dhex galeen waa maya qaabkay lagu ogaaday skiinerka loogu talagalay inay dhex maraan qalabka ayaa sawirka soo qaadnay waa kan waxaa laga shakiyey lugahaas yaryar waa kushnootooyinka waay waa kuwaana kushnootooyinkaas waay waa hadda baal ku rakiban kushnootooyinkaas ayaa meeshaa ka muuqda sidoo kale waxaa ka muuqdo dhawaaq caburyahan oo isku dhegan qaybta hoose dhawaaq caburyahan oo isku dhegan ayaa ka muuqda waa la shakiyey marka la shakiyey maxaa la sameeyey waxaa la wacay cilmi oo goobjoogaa la wacay cilmi waxaa la baashan furfur waa ninka furfurayna waa cilmi marka la furfuro maxaa loogu tagay marka waxaana loogu tagay ugu dambeyn qaabkii iskugu dhegneedna waa qaabkaana la iskugu soo dhejiyey lugahaasaa la aqoonsan marka kushinuutooyinka agabka ayaa keena marka waxaa keenay cabdulaahi baasaboorkiisa waa kan kiyaatiga cabshalaan sawirkiisana waa labada eedeysane ee dalka dibaddiisa ka soo geliyey agabkan eedeysanaha saddexaad Ismaaciil Yuusuf Siyaad madaxii operation-ka shirkadda Haatuf wicitaan taleefon ah ayaa September 2024 loogu sheegay in laga rabo soo qaadid cargo alaab culeyskeedu yahay 50 gram eedeysane Ismaaciil eedeysanaha eedda la xiriirta kiiskan marka la weydiiyey wuxuu sheegay in alaabtan uu ka soo dalbaday bishii September 2024 nin la yiraahdo daahir qaab qaaditaan ah inuu u rabay qaaditaankii way ku heshiiyeen waa gorgortameen $10 calaa kiilo ku gorgortameen sidaas ayuu qaybtii jeena ugu xiray 12kii bishii 7aad ay shirkadda soo qaaday waana waqtiga shirkadda daale ay soo qaadayso xarunta kilometer 4 la keenay agabkan waqtigaas marka waxaa loogu sheegay in la soo qaadayo makiinad waan soo bandhigi doono nooca ay ahayd iyo qaabka dhagarta ah ee loo geliyay alaabtan iyo alaabta waxay tahay soo bandhigi doona gudoomiye marka ciidanka dhisa markay qabteen wuxuu u sheegay alaabtan cidda lahayd oo daahirna waa ku tagi doonaa xafiiska xiraalinta wuxuu iska xil saaray shirkaddan horta ma jirtaa inuu soo ogaado wuxuu soo ogaaday gudoomiye shirkaddan inay jirto bakaaraha ku taalo maadira shati ganacsina ee leedahay oo maamulka gobolka maadira sidoo kale waxyaabaha agabyada la keeno shirkadda ayuu soo ogaaday waa qaab saasa ay u xirxiran yihiin alaabta qaabkaasana qof walba magaciisa ugu dul qoran yahay gudoomiye xafiiska asagoo iska xil saarayo shirkadda waxyaabaha ay diido iyo waxyaabaha ay keento wuxuu wareystay maamulaha waxaana dul geeyey computer-ka groupka shaqada waxaana meesha noogu soo baxday in hadda ka hor gacan la weydiiyey sooma qaadan inay dheheen waa shirkaddii mar aan dul tagno waa computerkeeda meesha marka gudoomiye marka inta la joogo agabkii waa loo soo diray agabkan haddii lagu soo diray waxa aad keenayso haddii miinooyin lagu soo xirxiro oo jawaan lagu soo saaro waa soo qaada waddankaa soo gelina wax caqli galaa maaha maxaa marsiisiinaa weydiiyey mas-uuliyadda meesha ay ka dhalanayaan meeshaan wax habraaca oo furfuritaan ah oo wax kale ah ama mas-uuliyad ah meeshaa kama jirto shirkaddan waa kaargo miinooyin jiina haddii laga soo raro waa soo qaaday maxaa caddeehayo waxa ay soo qaadeen maba fiirinba gudaha ma u furfuraynaa maamulkiis ka mid ahay gudaha loo furfuraa weliba waa la dabagadaa maxaa yeelay waddanka waa ogtahay waddankaa ka shaqeeya macnaha operation manager ka ahay shirkadda Haatuf Cargo Allah sharci shati wax walba leenahay Facebook iyo TikTok leenahay marka aniga xaysiina sameynaa marka xaysiinta sameeyno dadka lambaxay kala soo marka la soo xiriiraan anna soo hadlaa dadka marka oo la soo hadlay dadka la way kala baxaa marka qofna qof wixii fahansan waa marka kula soo hadlo wuxuu leeyahay adreeska soo dirbis ku dhaha qofna wuxuu dhaha wixii sharax maxaa la ogol yahay maxaa la ogoleen ka jigta lagu soo qaadaa qof saas ku wareysana qofna qof wixii fahansan waayo wuxuu ku weydiinaa bis adreeska bis ku weydiinaa ninka wala soo hadlay adreeska uu weydiiyay adreeska u diray kadib oo soo aanay wuxuu dhaha alaab oo konta kg rabaan soo qaadin waxaan aniga kiilada wax ku soo qaadnaa $12 markaas wuxuu dhaha aniga konta kg waa kiilada baan tahay $12 dhibi kara $10 igu soo qaada
waa kuu soo qaadayna diyaar waan dhahay kadib adreeska u diray alaabta xagga la geeyey alaabta marka xagga la geeyey marka waa la baaraa waa la fiiriyaa shayga kadib waa la dabalaa waxaa boona lagu soo qoraa alaabta waa qaban lagu soo qoraa marka boona la soo dirin kara boonada u diray kabacdi alaabta waa la soo qaaday alaabtana waxay soo martay wadamo badan soo martay waa la soo baaraa baaritaan lagu soo maaraa laakiin mashiinna ah ku dhex jiro ku qarsanay sida la sheegay markii la keenay kadib garoonka alaabta imaatay kuwa daalo oo alaabta diyaaradda noo qaabishan aan soo wacaan alaab soo doonaa la dhahay marka imaaday tiimkan maqsuudka ay qabteen magacayga waxaas laga qoray kabacdi waxaa la yidhaha alaabtan qof iska laha laga rabaa diyaar waa nahay qofka isla marka waa wacay ninkaan u geeyey waxaa dhaha ninkaan alaabta iskale ku qoran kadib ana waxaa lahay damiin fasaxaa tahay markaa damiin wacda fasaxaa tahay la dhahay waxaa laga joogaa adiga 2 bil bari ma 3 bil camal laga joogaa amanayna kadib waa la soo wacay waxaa la dhahay waxaa imaataa dambarista laga rabaa imaaw marka aniga waxaas taa shuqul ku leeyahay markaas la soo wacay ani qarashkii ku soo baxay mootaan iska soo bixi ana aqaan meesha imaaday lacag ku soo bixi waa imaaday kadib markii waa la wareystay bacda hal la xariga taal aniga mas'uuliyadiisa aan waxay tahay alaabtaas aan keeno qofkii alaabta iska lahay in haddii hadhow loo baahdo alaabtaas macnaha hadday noqoto wax mamnuuc aan la ogoleen in qofka alaabta iska lahay aan keenaa waajib lagu ah qof markaa keenana fasaxaatiin aan la dhahay markii dambe oo imaado la soo wacay oo dhahay imaa la dhahayna anaa imaaday kadib waxaa la xabsiga tahay marka waran tusaale ahaan taliya ciidan aan ahay oo askartii kamid oo qof dilo ila dhaha ka waran oo askari soo xiro oo la dhaha ka waran adigna askari ku dambiya tala dhaha ka waran magacaaga muxuu ahay Ismaaciil adiga shirkadan oo saami ma ahay shirkad kala tahay haatuf cargo Allah shirkadan haatuf waa lagu dhahaa orange manager ka ana marka magaca saamiya ku soo qaadeen miya maya haatuf cargo ku soo qaadeen aniga isbuuc alaab ka naawo yaa ka dalba alaabta ninkaan la soo hadlo xudda adrees soo diro dhahay marka xagga la joogo macnaha warehouse waxa la jira xagga shaqeeyo adrees qof loo diraa qof alaabta soo iibsana ama online ka iibsado ama qof xagga u joogo kadib alaabta xagga geeyna qofka horta inta aanan wadada kala aan gelin adiga alaabta yaa ka dalba soo operationka matiid adiga yaa ka dalba alaabta lagama dalba aniga qofku waxa la weydiiyay adrees la is weydiiyay adrees qofka soo gadanay aniga adrees ana la weydiiyay bis adrees la weydiiyay yaa ku weydiiyay adrees ninkaan ay weydiiyay adreeska soo diro xafiiskiina xaq ku yaal adreeskiisa soo diro dhahay xafiiskiina xaq ku yaal adreeskiisa soo diro kadibna waa u dirtay adrees marka uu weydiiyay kadib adrees bisa u diraa alaabta qof soo iibsanaya ama online ka iibsado ama qof kale soo iibiyo waa dhamaato waa qofku weydiin karaa bis ka bacdi keejiga kula shiibis alaabta marka daadir ma ka dalbay ninkaan adreeska soo weydiiyay aniga ninkaas adreeska soo weydiiyay kadib adrees soo weydiiyay waa soo wac kadib alaabta Soomaaliha manifest la manifestkeeda aw alaabta manifestka waxa ku qornay accessories ku qoran alaabta machine marka alaabta la furo shay uu koreeya la fiiriya magaca kaas loo qoraa mar la qori accessories ku qoran accessories maxaa laga wadaa badanaa waxa loo isticmaalaa waxyaabo elektarooniga oo sida aan telefoonada wax ahayn oo badanaa sida waxa loo isticmaalaa hal qalabka oo kaamirooyinka oo kale iyo tripodkan oo kale iyo waxyaabahaas oo kale lagu qoraa accessories lagu qoraa ama microphone oo kale iyo waxaas iyo machine caadi waxaas alaabta marka waa soo qaadeen waa keenteen yaa ku soo wacday marka hore ana alaabta isbuuclaan noogu maata ku diyaarada soo wacay alaabta ay maatay soo doonaa la dhahay marka xafiiska tagana kuwana mas'uulda ay qabteen kabacdi xafiis waxa la geeyay garoonka la geeyay magacaas laga buuxiyay waxa la xafiis shirkadda maxaa ka taalahay operation manager ah dhahay waxa alaabta qofka alaabta qof iska leh waxa la tusay waxa la dhaho bil waxa la jiro alaabta lagu aqoonsado bil kan qof iska leh mashkiin kartaa kabacdi ana telefiga la keen loo intusaa telefiga soo bixi manifesta ka fiiri kabacdi waa arkay waa wacay بعد هالنك توعد بلم يلا أنت وع بلمي بعد والو تري ولا كياني كده أنا وحلا دمي وعفص حات هذه أنا بتاعه وصب كان هذا ما لقيلا ولا قلا وعكر لقيلا أنا أنت سوقف وكنا قفا حيسوي ديان درون عكس يسوي ديان لما أقرأ هلا مسوق هذا نهار إذا لم مسوق هذا درون لم مسوق هذا تحسن تلف فيه اللي قري ولا قلا درون مسوق هذا درون لم مسوق هذا درون إذا لم مسوق هذا تحسن تلف فيه قري ولا قلا eedeysanaha afraad daahir cabdulaahi cali maxamed waa furaha iyo wakiilka shaqada la haya kooxda jeenah ee cabdisalaan iyo cabdulaahi kana dalbay alaabta eedeysana Ismaaciil waxaana ku soo wada dhacay dhammaan xiriirada loo qorsheeyay fududeynta soo gelinta iyo u gudbinta argagixisada eedeysanaha labaad daahir waa eedeysani uu sheegay ninka la yiraahdo Ismaaciil eedeysanaha marka waxa laga weydiiyay eedan loo haysto wuxuu sheegay inuu soo wacay cabdisalaan sawirna uu soo diray alaabtaas ayaa ka soo baxaysay doon garoonka aadan cadda doon intaas kadibna garoonka laga soo wacay sidaasna uu ku tagay muddo gudoomiye meesha muhiimka ah oo boontiga muhiimka meeshaan waaye alaabtan waxay soo saari jireen nimankan oo aan shatiga ganacsiga lahayn
niman la yidhaahdo safari cargo haatuf oo 4 bilood jirto ayay dhex mareen markaan ujeedka maxaa waa marka safari iyo nimanka waa isyiqaanaan si marka haatuf oo cusub oo aan fahmaynin waxyaabaha qaar lagu qaldi karo ay soo dhex marsadeen taasoo caddaynayso hawshaan inay ahayd howl abaabulan maadaama kaargowga iyo macaamilka la ahaayeen ay ka wareegeen eedaysanaha marka wuxuu sheegay marka shirkaddii ay soo wacday alaabta lagu wareejiyey ugu dambeynna laama amniga ku qabteen meeshii sidaasna ay ciidan ku xireen sidaasna uu ku keeyey inuu cabshaan la xiriiro nambarkii cidda loo geehayey inuu u soo diro subaxdii nambarka la siiyey sidaas ayuu eedaysanay cabdiqaadir sheekh aadan ku soo xiray oo alaabta ugu geeyey mudane guddoomiyey xafiisku wuxuu sameeyey qaabka iskula xiriireen asiga iyo eedaysan ismaaciil asiga eedaysan ismaaciil waxay iskula xiriireen by whatsapp iyo wicitaano ayaa jiro whatsappka linkiga asoo loo diraayo ayaa helnay markaan baaritaanka cilmiyeysanay forensic lab la sameeyey iyo alaabtii iyadoo loo diraayo alaabtu waa taasaa marka wuxuu leeyahay ku qor magacaaga iyo nambarkaaga markaad u diraysid qof alaabta aad ka iibsanaysid si aysan magac la'aan u noqon alaabta yaa diraayo ismaaciilaa diraayo wuxuuna u diraa daahir ma sameeyey magaciisa ku qoray alaabtii sidoo kale waxaa rabnaa mudane guddoomiyey codadka dhex maray eedaysana daahir iyo cabshalaan taasoo ku caddaynayso in alaabtan cabshalaan uu ka warqabay eena ahayd alaab uu u waday khawaarijta waa hurdayniyo haddaa hurdo kasoo kacee ay ninka u geynaa ii sheeg haddaa wareejina alaabta haddaa qaadaay ay ii soo diray haddaa u geynaa lambarka ii soo dir loo geynaayo waana wacayaa ninka oo loo geynaa waa wacaa saaxiibo si hiisha la camal mudane gudoomiye codkan waxaa ka muuqato inuu dhahayo alaabtan maxaa u haysaa alaabtan maxaa ku geey alaabtan ma gudbin miya oo leeyahay cabshalaana dhahayo oo isnaha koowaad ah waxaa lahaa daahir maxaa yeelay alaabtan muqdisho soo gaartay cabshalaan waa ka warqabaa inay elaboorka dhaaftay oo daale ay hayso wuu ka warqabaa laama amniga inay la socdaan laakiin kama warqabo daahiraa marka wacay waa ishaleeli waaye mar labaadka saa soo wacay saaxiib usmaantoonna ku soo wacayay xaa kuu dhacay daahir wuxuu leeyahay hur waa jiifay waa hurdaayey yaa u geeha alaabta ma weli taalo saaxiib naga bobsii geey oo leeyahay taasoo ku caddaynayso cabshalaan inuu ka warqabo alaabtan codkan labaad cabshalaan wuxuu leeyahay ninka aad nambarkiisa isiisay waa isla hadalnay hadda ayaan u qaadaa codkaasan shidaa waa isla hadalna waa u geynaa ii keeno ee waa isla hadalna waa u geynaa waa cabshalaan marka codkan wuxuu leeyahay waa isla hadalnay haddaan u geeha yaa isla hadlay sheekh aadan iyo waxaa isla hadlay daahir nambarkayaan soo diray cabshalaan too joogaa jena sheekh aadan too joogaa bakaara carwo limon yaa isku xir marka waa isyaqaanaan dad isyaqaanaa isku wacdo dad isyaqaanaa wax isku dhiibto mudane gudoomiye haddana wuxuu leeyahay alaabta markaad soo qaadaysay ma furfurneed taasoo ku caddaynayso alaabta hadday furfurneed waana la fahmay khataraan ku jirnaa yaa dhahayo cabshalaana dhahayo yoo dhaha daahiruu dhaha maxaa caddeehayo iskama dheheyno waa tanaa cabsalaano alaabta horta markaa soo qaadaysa ma furneed maya sidii u xirantay whatsapp ma igu soo dirtay hadda kuu soo diray ii soo diray codka marka wuxuu ku caddeehaa cabshalaan alaabtan haddii la furay laamaha amnigu way ogaadeen khataraana ku jirtaa wixii aad waddanka soo geliso qoyro sharciga ahaa oo agabka ciidan ah oo daroonta loogu talagalay ciidamada ah
لو أديك سدو فلا كبحسن أو أديك سرت أديك ودو قريب تقواريت عيال لفهموا إسلي عبد السلام مركان عد كان مركب وعديها دنا مرلوات عبد السلام إنه كورقبه نوع أي تاي درون تانوكين داير مركب عد كان إنه الضوء لا ما أمنية أي مرك موجود قلتها لا ما أمنية لجوم ما يوليه أوكي ويوليه مرك وقلب غوجي من قدومي مركب وعوض الله إذا السنة ظاهر إيو إذا السنة عبد القادر الشيخ آدم وحوليه هاي alaaba liigu ka soo dhiibay daahir dhaha wuxuu leeyahay sheekh aadan ku dhaha intee kugu keena sheekh aadan wuxuu ku jawaabay taqaan wuxuu ku jawaabay carwa limon oo uu keen meel aan aaday maqaayad aan ka qadiyaa meel taas uu leeyahay maqaayadaas aan ka soo laabahay soo dhaqso leeyahay soo baxdo leeyahay taas oo ku cadeynayso in sheekh aadan waxa uu soo socdo uu ogaa shabaabkana uu soo sheegay alaabtaasna inuu soo qaaday inta alaabtaasna lagu wareeji doono أسيق إيه عشان يصلح لي لين نوع علامة الأكبر قبل ها عديها يا مرك إسكا ما هذلين أيضا نوع تمام ألو ألميا نيو علامة اللي يوكا سودي بنتي كوكينا هذا مسلسل هذا مسلسل ولا ما غير هذا زنوانا هذا نقص قادر علامة كوكينا وأنا ما غير نتي زنوانا ورعنا وعيس ديارو حيوكين عرو ليه مش بأرض برا بتاعنا ماشي على كده مغايد بقى الصبح يا لسه alaabtaas linkigeeda iyo xiriirkeeda uu fadhiyaa numberkan waa numberka sheekh aadan caan waa la yaqaan dadka waa yaqaan qaraabadu waa taqaan wax dhan waa yaqaan maxaa cadeeyo numberkiisa waay waa la soo wacay alaabadan aqooni miinamya waxay taa ma taqaan been waa marka waxay ku cadeeyay marka in asaga iyo cabshalaan isla xiriireen asaga iyo ninkii warjooga ahaa ee alaabahan la qaad u qaabilsanaa qawaariigta in isla hadleen oo galad liiraan oo kuuyo barujo من قدومي عد كان وعد كده مري إذا سنة ظاهر إذا سنة محمد أو هو رديه سوق محمد مركي رنحان الله حكى دري مسا في جنان زائدة وحوليه هاي شيخ آدم على بلا مسجد شيخ آدم هدي وليه لها إذا سنة ظاهر على بتاع شيخ آدم يسوديه وقول لها محمد لكن ظاهر وحوليه عبدي ayaa ay soo dhiib alaabto leeyahay halkaas ayuu markuu leeyahay abdi ma aqaan iska dheena ayadana maya waatan ayadana oo habeen madow taaw sida caadiga waliin soo kadib hadda mootaa soo saare intee ku keena meesha carwa limoni bisteejada bara waa keenay alaabta horta magacaas kala sheeg magacaas kala alaabta ku keena qaraxna ay keen rabtaa maxayino daahir shaniya daahir داير ما كقرن داير كقرن داير كقرن داير كقرن يا لمبرك يقصوشي هذا الشيء هذا لمبرك يا عبدي اسوسي يا عبدي اسوسي يا عبدي انا عبدي ما خانيو انيو عبدي ما قالوا لي الشيخ هذا ما لمبرك يقصوشي الشيخ هذا اللي اسمر كويس وقاين عبدي ما يقصوشي لي هي عبدي هدي وداهي عبدي ما يغني كان كيش كلو سو مر علابت ظاهر ما ku qorantahay ma cadeeha ayada naftirkeeda lugahaas waa nin jeenes lugiis meeshuna waa jeena waxa ku qoran alaabtaas numberka daahir iyo magaciisa ku qoran waana eedeysanaha saddexaad wali waxay cadeynaysaa alaabtii cadeynaysaa iyo message-ka loo soo qoray muddo gudoomiye xafiiska xilaalinta wuxuu booqday intaas kadib wuxuu booqday shirkadda Sami Cargo ay ku sheegan ayaga laakiin aan dhihi karin shirkad waay maxaa yeelay shati ma lahan waxay leedahay ma laha taleexay ku taala hal qol oo laba computer ay taalo cunug 15 jiran uu joogo ayaa ugu tagnay taas oo cadeynayso in suuq madow ay ahayd afaraas marka daahirana mas'uuliyadda iska leh معايا القلق أسجل شركة شغالة كاهي عبد السلام مركو يسوي واحد هاي شركتنا عبد السلام أسكله أنا شغالة كاهي عبد السلام واحد هاي علابة الدون ولا إنه يسوي علابة يسوي دكتك إيربورك يسوي دكتك علابة الدون ولا علابتي واحد دوني
shirkadda oo soo saaraa wacay alaabta mi imaataa dhahay shirkaddii waxay dhaheen alaabta waa imaataa noo imaw markaa u teginaani waa la soo qabteen kadib ciidanka waxay dhaheen alaabtan ayaa iska hay waxaa dhahay cabdisalaan alaabta soo dhiibay asaa soo gaday hala wacay shirkaddan asaa iska leh waxay dhaheen cabdisalaankii yaa wacay cabdisalaan markaa wacay wuxuu dhahay cabdisalaan waa wacay alaabtii awooddaa dheh lambara whatsappka igu soo diray wuxuu dhahay mooto u saar wixii lacag anaa qarash anaa kula xisaabtamaayo lambarkii waa wacay lambarka wuxuu dhahay aniga waa hoyaada ani ma joogo cabdisalaankii ku celiyay dhaheen ciidanka waa ku celiyay cabdisalaankii سلام وحول هاي ألعبت حفيز كي برسوبي حد يا موت صاري أنا واللي سحري صبحي اللي صبحي كعلي الله سلام وكعلي واحد ألعبت يا أود مركل هذا يا اللي أسهل ألعبت يا لو ديبا وحول هاي لمبر هذا وصف يوصل وحول هاي موت صار يا غرش أنا كل حد تمام موت صار لمبرك ولا سوق بتاع سنة ما كساني كسوة شركة أنا معمول إلى هاي ما أسا معمول أسا سكال الشركة ده maamul way leedahay ani wax oo shaqeen ani shaqo ma ku lahayn shaqaalaha ka ahaa adiga se u shaqeeyay Cabdisalaanka muxuu yahay horta intuu joogaa Cabdisalaanka Jayno jira ha shirkadda asaas kale ani shaqaalaha ka ahaa adna shaqaalaha ka tahay ha maxaa se u shaqeeyay marka maxaa sameeysan horta asal ahaan cargo alaaba soo diga alaaba soo dijisay ha alaabti marka airport ma la soo dijiyay alaabti ha airport soo digtaa shirkadda soo saara shirkadda oo soo airport soo bixiso kadib ani waa soo qaadana xafiiska Kenya dadka iska laha u qaybiyaa marka waxa leedahay meel ma idin karisan xafiis aan ha oo cargo gormeel isma shirkadda marka wiligeeda jir jirtay meeqa sana jirtay ma sanad madam meeqa mara airport wax ka soo qaado hor hadda ka hor ha laab badan waa soo qaado oo shirkadda dad iska leeyahay waa u qaybiyaa dadka iska laha lacag ka qaatay oo qaybiyo ana oo idira alaabta marka airport ka soo degto daahir oo doon oo idhaa alaabta marka hore macmiilka ya keeno macmiilka alaab dalbay adiga ma keeno masaakiina ma haysiina saaran ma tan hadda alaabtan yaa dalbay asaas oo gad adiga bacdama ka shaqeystay xamar ma joogtido adiga ha xafiiska oo Cabdisalaan hada shaqo anaga marka xamar qofka joogo wax ka raba adu ku imaana Soomaa xamar qofkii oo wax ka raba qofka in alaab laga soo qaado haysiina waxay saaranta Facebooka haysiinta lambarkiisa ku qoran asay la xiriiraan ha asaas oo gad alaabada lambarkiisa la xiriiraan ha alaabta markuu soo diray ka hor waxba ma ku soo diraayo alaabta noocaas ka soo qaad airportka ma ku dhahayo ha alaabta soo digta doona bidhaa ما نوعيده ما نوعيده حسب ماليشيا marka keeno sheeko fahmi alaabta lagu diray alaabta waxa ku qoran shirkadda lambarkeeda ku qoran iyo magaceeda oo ku soo qoraa ama magaceeda ku soo qoraa ama lambarkeeda ku soo qoraa sawir ku soo diraa marka ku isoo bixismaya ha sawir isoo diraa kartoonka isoo diraa kartoomada isoo diraa alaabta noocaas alaabta marka asay ka timid ha asay ka imaad sawirada lagu soo diray waxa ma sawir ma isoo diraa waxa ku soo diray mal doon ha doon alaabta adiga hadda waa lagu haystaa lagu leeyahay ma aragtay horta ma arki alaabta doonaysa lagu qabsado ha qofka oo taleefankiisa ku soo diraa lambarkiis oo ku wareeji ku dhahay oo ka soo doon lahay alaabta oo lambarkiisa inuu diro oo lambarkiisa oo soo diro oo dhahay ha mooto saar ha okay waajo Cabdiqaadir okay Cabdiqaadir ku wareeji ku dhahay lambarka Cabdiqaadir ma ku soo diray asaga lambar soo diray aadana la mooto saar wixii qarashada ana ku xisaabtama wali marka wacdo ciidanka wax ku dheer maxaa ku dhahay alaabtii waa la isku haystaa intii mushad maya si inuu ciidanka ay qabteen muuse weyn ma inta isku barateen Cabdisalaanka shaqada asaa keen cargo markuu oo furtay asaa keen shaqada iskale cargo asaa iskale ma hore ma isku taqaan ha hore isku naqaan Cabdiqaadir meeqa mara alaab ku wareejiso oo alaab hore ku wareejiso ma markii ugu horeyso isoo diraa waa lambarkiis ma aqoon Cabdiqaadir ma aqoon markii ugu horeyso oo lambarkiis isoo diraa marka qaad alaabta ma fiirisa wax ku jiro ha waa fiiriya alaabta maxaa u badnaa lagu soo diri jiray alaab caadi dadka iska leeyahay shoobin iyo wixii dadka iska leeyahay waa u qaybiya dad magacyada dadka magacyada lambarada ku qoran ما هو ذا كقريب بس واسكو بس واحد ورقد لا سعون واسكو هوبيا سووا بس alaabta markay soo degto oo aad doono keen xafiiska waa furfura waa jeexa kartoonka waa furfura marka furfuro qof kasta alaabtiisa meesha ku jirta moogta kartoonkaasi ku dhex jirta waa u qaybinaa marka dadka adi Cabdisalaan kaargo lama isku barateen mise hore isku taqaanin ha Cabdisalaan hore isku naqaan qaraa ehelaatiin ha eedeysane Cabdiqaadir Cismaan Wehliye laguna naanayso Sheekh Aadan isna waa madaxa busteejada alaabaha looga daabulo caasimadda una gudbisa gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan Kuuya Barow iyo Ugunji iyo gacanta daahir kala wareegi lahayd alaabta Jeena ka timid waxaana uu qorshaha inuu argixisado ku simo qalabka Jeena ka yimid iyadoo niisa gaar ahaan qaybta digital forensic oo adeegsanaysa tiknoolajiyad sare ay u suurta gashay in dib loo soo celiyo raadka xiriir telefoon simikar iyo WhatsApp oo la tiray dhaxmarayna Cabdiqaadir iyo horjooga ka tirsan qawaariista laguna magacaabo Garaad saddexaad Sheekh Aadanka sheegano inuu gudoomiye waa kan
eedeysanahan ayaa 2018 wuxuu furtay shirkad gaarku oo keenta alaabaha kana soo qaada xamar geesana baraawe taasoo ilaa hadda ku shaqeynaya waxaana u sii dheereed in uu gawaarida u raro busteejada baraawe iyo kuunyo barow waliba qaas wuxuu lahaa uu gaar u rari jiray kuunyo barow oo ah goob gawaaritu ay biyo dhigatay eedeysanahan waxa uu cadeeyay alaabtan in isaga u socotay ahaana ninkii gaariga saari lahaa una keenay eedeysane maqana ah oo lagu magacaabo garaad u socotay maxaa yeelay wuxuu leeyahay alaabtan waa lii keenayay diyaaray ahayd inaan qaadnay diyaar u ahayd laakiin ani ciddii ii keenayso iyo ciddii rabto ma aqaan u leeyahay marka alaab marka busteejo laga qaadaayo mistibi waxaa ah qofka loo geehayo meesha ay u socoto in la yaqaan caqliga marka wuxuu naga dhacsiyaha qofka loo geehayo ma naqaan qofka ii keenayna ma naqaan nambarkeygana haddane waa la hadlo carwo liimoon imaan wandhe waa isma diidooyinka cad waay oo iska cado aad u fahmi karto mudane gudoomiye waa marhabaabin uu sameehayo waay eedeysanaha mudane gudoomiye wuxuu kaloo sameeyey wuxuu tirtiray xiriirka asaga iyo eedeysana garaad maadaama garaad ay laamaha amniga ay hayaan nambarkiisa laakiin digital forensiga hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka wuxuu sahlay in uu soo saaro xiriir ka dhexeeya asiga iyo garaad asaga iyo garaad iyo walaalkiis kaloo cali cismaan iyo kan xiran all of them ninkaasi xiriir lahayn garaadii xiriir lahayn waa saddex walaalaa reer cismaan weliya saddexdooda xiriir lahayn nambarkan lacag $16 mar u tuuraa mar lacag $24 u tuuraa forensiga cadde wuu ka dalidaa asaga mobilkiisa waa nambarkan sheegayno mudane gudoomiye wicitaankaana waa wicitaanka data soo bandhignay oo asaga iyo daahir cadeynayso in alaabtan uu ku ogaa alaab ogaal ah oo tagays ogaal uu ku yahay cidda loo geehay iyo cidda uu ka qaaday iyo waxa ay tahay cadeeyso codkan wicitaanada dhaxmaray iyo waqtiyada la soo wacay oo dhan nawaataas abaar wuu daahay tobnigo saacamal noqotay anay xaafad wiilkaana isla joognaa asagana waxaan irinay inaan qasaala soo wada oo xaray waardiyaan ka qaad waa iska baxay soo wacana waa baxay wiilka meesha jooga alaabta u geeyay xaafadeeda aadani taleefankii dibdam ima soo wacin wiilka nambarkiisa waxa siiyay ma garanayo inuu soo waco saa ii sheegay marka haddana ilaahay markiisa waxa dhacday subaxii aan imid shaqadeedii aan galay subaxii 5 saac mar ay tahay aan soo wacay ninka soo jooga miyaa haa ninka soo jooga waa hay alaab soo wada haddana sidoo kale ay dhahay waa la imaaday waxa ii imaaday nin oo taliyaha nabad sugidda degmada Howlwadaag soo ka sheegay markii dambe asaga iyo dhowr dhalinyaro la socoto basaajada uma ninka soo jooga adiga miyaa haa ninka soo jooga aniga waa wax yar ariyaan ka rabaa dhahay waa i waday wax yar ka bacd markuu la socdo wuxuu dhahay taliyaha nabad sugidda degmada Howlwadaag ahay inay raacdaan rabaa dib balan diyaar waa ku raaca way soo waday baawrkiisa soo saaray wuxuu keenay jilco waxa leeyahay nambarkan sheeg nambarkan shal galmo soo waxaan dhahay qasaaladan ku keenay oo dhahay mana ii keenin wiilkan la daarmay waxaan dhahay inaan soo wada qasaalada soo wada laga xareeyo lacagta waardiyaan ka qaad asagana wax ma loo keenin nambarkan mid qaanin nambarkan ma aqaanaan laakiin alaabtaas aan ku keenay oo dhahay saakana waa la soo wacay ninkii soo wacay ninkaas inay isku mid yihiin in kale waxa difference u dhahay ma sheegi karaan saak markii la soo wacana baawrkana la imaaday waa la soo watay si la soo waday jilco la keenay nambarkii la weydiiyay nambar aqaan ma aan bastajan jooga dad badan soo waca oo markasta alaabaha qof baawr raaya ahay saas intaas jirta bas wax kale oo ogaay male bastaje maxaa ka qabataa bastaje baraaw dalaalinta baawrta qarta kamid baawrta qarta qofka hadla shaawi adile tirmiya alaaba la ka keenay yahay waa isla joogin macnaha aniga wax agtiisaan joogin ninka anoo salaafin soo waca koow markuu soo wacay qasaaladan soo wataa oo dhiman dhahay keen muusan keenin oo daahay inaan baxaan rabaa marka xaafadda aado wiilkana waxaan dhahay qasaalada la soo wadaa ka xaray waardiyaan ka qaado intaas asaas u sheegay qasaaladan soo wacay qasaalada soo wadaa waardiyaan ka qaado qasaalada u xaray alaabta oo shaawi si sheegis adiga yaa marka hore ku soo waco ku sheegay alaabta telefoon ay soo wacay ana aqoon nambar ay soo wacay basaaj baraaw miya basaaj baraaw alaabtaas soo wataa dhahay bis telefoonka xayisiin saaran yahay miya basaaj baraaw macruuf waaye meel baawr ka baxaan oo basaaj baawrta laga rabaa ما يعدين تلاقي صرع حيسيمو كسرات أنا وحرت دلال أو ألعاب تدبر رماتها بغارة لها ميا
ما بقارن ملين باور كان رابرا باور بسجل معنا مل بسجل باور تقبحضه qofka marka ku dhahay ma taqaanid miyaad maya qofka isoo ma aqaan see lagu xidhay adiga ya waxa isoo xiray sida aan ku sheegay aniga laba marba telefoon la isoo wacay bis alaaban ku wadnaa leelida alaaban ku wadnaa aslan marka shaqadaas qabataa miyaa lagu soo wacaa alaaba lagu dadna waa imaadaan oo busajada imaadaan oo ayagoo baasjeeri oo dhar waxay ku bixi lahayn alaabtooda keensadaan dadna customerka oo baraawe waxay u keenayaan macnaha alaabihii oo magaalada laga rabay dharoo kale caanoo kale wax kasta macnaha baabuur oo caasi oo la raayo alaabihiis waa taqaanaa marka dadkii oo maqan dadka maqan Marseembiyo oo gobolka jira waxay u soo dirsanayeen ninkii oo magaalada Bakaaro u jooga u shaqeynaya alaabaha xafiiska loo keenaa marka kaariya taadi kaari waay kaari waay kaariga aad tahay ninka lambarkan ku soo wacmay qamar xurrta may weligii markan nafkiis ima soo marin qofkan kugu magaca kugu xigo muxuu ahaa isna caliira inta ka soo galasay masaajida loo jooga isna adima waxa u sheeg maxaa maya ma isku mid ma nihin banigan isku time hatta ma nihin أنت تلفك ولكسينا بابلك بالك وديو يسك ها اسكو وقت مني بنيكان ما كهري هذا كهر محرع انا كهر محرع نيكان هذا كهر محرع انا كهر wax badan wali بالله حل جرا ما حاسكتين ولا لا انا نيكان ولا لا انا وهليه هل علمي يا عثمانك هذا كهر محرع انا كهر محرع واستجدون كشقيا ميا سجدوا كشقيا مش فرسنهم على لوحري محسمي تاس انا اسال ويدينا انو حد aan ogaama تليفون كاغا نكي كو هدلاي تليفون لمبر كاغا لو دير الله نكاس انو جي qofka u dir hal weydii yani isaga isma naqaan ninka hata isma naqaan dhaay number kaaga la soo diray waligeey ma arkin isma naqaan adiga teleefoonadan lambarkan ku soo wac lagu leeyahay oo 20 ku dambeys qofka ku soo wac si dibi rabtiyaa waa alaabtan hadii lagu soo qofka markii oo alaabta ay ku timaado ayaa waxa la sameeynaa qofka loo rabo markaas la qoraa addresskiisa iyo wixiisa yaa loo rabaa meesha salon rabo qof la rabo markaas baraa ay tagto qofkii ilaahay asaa imaanay saas way qof marka alaabta ku timaado ay waxa sameyn kartaa magacii qofkii loo rabay la helaa waa la qoraa markaas magacii iyo taleefankii waxa dhamashka lagu qoraa qofkii loo rabo alaab inaad dirsata darabto alaab hadaa ina meel ka gudbis rabto ama adaa qaadayo geehay ama qof aad taqaana iyo gudbi dhahay ama Soomaa maya alaabta masaajida waa la keenaa Soomaa masaajida marka la keeno qofkii alaabta iska lahay waxa leeyahay alaabtan yaa iska leh hebel yaa loo geena baraa qofkaas hebel jooga la geena qofkii magaciisa iyo numberkiisa laga rabaa markaas bacda waxa dhacay in la heshiiyo qiimaha ahayd wixii la ogaado kadib bilaawa marka qofkii leh in la helo waxa ku xiran tahay in alaabta lagu keeno adigu walaalka ka hor la xirmaya oo ka horay ninkan laba bil ka hor midka kale oo xabsi ku xukuman min ka weyn inta tagiriya anaga yari eedaysana Cabduqaadir ayay weli noo joogtaa 12kii bishii 2025 maxamed Cumar Axmed Jimcaale oo Bakaaro ku yaala wardiye ka ayuu ku wargeliyay inuu la wareego balse kor ay qabteen ciidanka Niza eedaysane maxamed Cumar Jimcaale shaway eedaysanahaas inuu waxa soo wacay nambarkaas oo alaabta nin dangale oo horjoogaha aan maatoona sheegay inuu garaad liiraad waxaan soo siiyay Sheekh Aadan maxay yeelay nambarkan iyo asaga wax xiriir ay ku yeelan karaan ma jirto alaabtaas wax daba socday oo alaabtii hay dhaay oo alaabtii wardii dhaay oo alaaba ku imaay dhaay oo nina ku soo wici doono ku wareeji dhahay waa Sheekh Aadan marka waa asiga iyo daahir codka dhaxmaray oo loogu sheegay in alaabta loo keen doono haye haajiro alaabna ma qabanin aniga alaabta la sheegay ma arkin baaniga haye alaabna ma soo gaarin haye maxaa lagu xiro sameys lambar ku soo wacay amal lambarkiina macnaha waa soo wacay waa ka qabtay waxa dhaaniyo lambarka ka hor inta soo wacin Cabduqaadir ay imaado waxa dhaaniyo kartoon qasaalad ku jirta la keena ali soo wada kartoon qasaalad qasaalad ku jirta oo ii sheega la keena kartoon qasaalad ku jirta ali soo wada kartoonkiina ma arkin lambarkaaga lambar soo siina oo dhax kartoonkaas qasaalad ku jirta soo wada ka qabo marka lambarkii waa soo wacay xilli maqrib amal ahayd waa iska mashquulsanay waxa dhahay waxa soo wacayaa waayaan dhaa macnaha waxa dhahay magac daahir magac ii sheeg marka waxa dhahay daahir ma aqaan yaa waay adiga waxa dhahay lambarkayga ku soo siiyaan dhahay abdi ay soo siiyo dhahay oo ugu damiyay marka wax kale masdeen mar labaad taleefkayga dablaanaha jaajara gashtay oo soo wactan ma ka qaban intaas le wax kale ma ogaanay alaaba lagu keenay qabaal u dhahay يا كده عبد القادر كوا كنا كرتون قصيرة كجرتو يشيء وكاس علابتنا ماركن يا كحير هذيك يا كوع كحير عبد القادر سحر أنا
عبد كتبت كيف سوحر حسان اللي حيره مركز ساي سو وداني oo askar la socod maxaa lagu sheegay in lagu haysto markii in macnaha lambar oo ku soo camal oo lambarkii ali tusay lambarkan sidaas oo igu soo galaan daani lambarka marka ku soo waca yaa ku lambarkaas muxuu ahaa muxuu ku dhahay lambarkaasna lambarkaas wuxuu ahaa ma aqaan laakiin alaaba soo wada oo dhax alaaba soo wada ay qabo meelin alaabta koodoor macnaha lambarkii aniga lambarka alaabta soo wada iyo waxaas aniga ma aqoon Abdulqaadir ay maada kartoon qasaalad ku jirta aniga oo isoo socota ay qabo dhax sidaas macnaha aniga aydan ku soo galay marka hore alaaba imaanaysay qabo Abdulqaadir ma ku dhahay lambarkaaga lambar soo siinaayo dhax macnaha qofku soo siinay ma lagu haystaa marka qofku soo siinay aniga macnaha lambarkaas soo wacay lagu haystaan aad maxaa qabataa horta aniga suuq bakaaraha macnaha waadii ka ah meel aabahay oo ka shaqeeyo caawiya maxay tahay meesha wardii baqaarada habeenkii wardiisa abaa inta fadhiya fadhiya ma waa iska ilaalinay aniga macnaha shabaabna weligii ma la shaqeynin hooyadii qarax ku dileen baani waa kaasa eedeysane cali cusmaan wehliye bilkoor ayaa isla laga soo xiray busteejada hadda uu madaxda ka yahay walaalka ka yar eedeysane Cabduqaadir maadaama lagu helay xiriirka argagixisada labada walaalaha ah waxaa qofka saddexaad ku ahna yaraanka reer wehliye maxamed cusmaan wehliye oo lagu soo qabtay inuu kooxda qawaariijta u gudbinayay agab ciidan waxaana lagu xukumay 10 sano xabsi ciidan ah 2023 saddexdan ilmo wehliye ayaa isaga kala wareegay madaxna ka soo wada noqday busteejada qawaariijta u dhoofisa dalabaadka iyagoona dhammaan xiriir la lahaa qawaariij garaad oo hadda baxsad ah سنة لحد علي عثمان ويليه wuxuu la dhashay Cabduqaadir Cismaan Weliye uu ka horeeyay bishii shanaad ayaa la soo xiray sababta loo soo xiray waxay ahayd isla lambarkii targetka ahaa ayaa isna xiriir leh oo alaaba ay u qaaday nambarkan waa nambar diiwaan gashan oo u diiwaan gashan hay'adaha amniga mudug gudoomiye eedeysane Cali Cismaan iyo Cabduqaadir Cismaan waxay la dhashay Maxamed Cusmaan Cirro oo lagu soo qabtay in kooxda qawaariijta u geeyay dhar ciidan agab ciidan loogana xukumay markii lagu helay 10 sano shabaabka waxa u shaqeey jiray Maxamed Cusmaan waa la xiray waana la xukumay waxay ku badashteen waxa lagu bedelay Cali Cismaan isna soo bilooyin xiran waxa la keenay Cabduqaadir Cismaan waa reer dhamaantood la wada shaqeeyo qawaariijta maxaa yeelay kii horena agaba lagu qabtay kuwan agaba lagu haay shabaabkii asaga ahayna wali xiriir la leeyahay 7 saac baa la soo galay waa la soo waday waxa la keenay xarunta baarista xisbiga marka waa kaas aniga waxa la weydiiyay su'aasha guddi maxay lambarka ku soo waxa la guur aniga isla lambarkan ma ku soo wacay maya lambarkan la imatusan aniga lambarka ku soo waxa la guur lambarka hadda la isku haysto ma lugta maya lambarka ku soo wac muxuu yahay mu sheegtay lambarka hebel waa ma dhaxday maya nin ay weydiiyay lambarka ma taqaan ma lambar aqoon lambarka ma taqaan ma aqaanay intaas soo geyn dambeys baaraha ya qasana jir 52 sano taleefanka ku soo wac markii la weydiiyay maxaa ku jawaabtay ma aqaan مكسوع علمية معنا تلفونك كسوع تلفونك نمبر كان كسوع هلا إيش يقول ما تقان نمبر كان أيه ما قانا نمبر كان محاورتها ما قانا أنت سأسكون بدل مثال يا واكو فاهم تلفونك نمبر كان لا هلا ما أقول ذكرتيه ما يبص جوا ما أنت تكون نمبرك كسوع عاي ما كلا قوكر محاقبة مستجد حكي جوني كان أقول ري نكمل مركل سوحر ماشي معه هذيك التلفون كان ما ماله بحس تلفون كون تلفون يسوع عاي أنا هذا تلفون أخشوتها وكسوع على تلفون ما قانا لكن تلفون نبص تجي وقف أنا سوى حتى ولا جاب حاجة أنا سوى حتى ولا جاب وترى بقى ربعنا ولا جاب يركع الحيرة والحكومة محله يست محسمي باور جد كلا سوق بتاعي رنين كان عربي صار كي يرنين كان إصوص صار وأنت هنا مركل قبنا ويل كأنك ولا جوجي السرعة حتى ما صار المية تطاس ما يشقى ما كل عنك تطاس أو شقكم عنا لين نين كان باور كلا صوص هذا ما السرعة ما نشقى كلهن darowalka anu shaqo maana leenaa adiga ma asaga maxamed kama sheeg maana ma la joogin hadda markii waa laga wataa soo la jooga laga wataa aniga adiga cid reerka garaadkan sheegay ma heer wehliye ah asiga maya waxa naqaaba ma maxaa marka cid oo kitaabkooda dhaqay busteejadii wax soo maraya waaye wax busteejada uu ku rifaaqan waaye maan waxa anaga xageena ma ah reewili qofna uga jiro Soomaali in asgar wili lama aragba hanal raadiyo waa leelaade taariikhdeena qof shabaab oo reewili ma jiro hal qof ma jiro soo raadiyo أديك كان عندك شو هذا؟ مركب ما من نسيب كنا محاكد جا مركب إن عرفت على بستوجة واي بستوجة ما يقبل بستوجة حكى كنت هذيك ما يقبل بستوجة كنت بستوجة واشر ومال شر هذا واي بستوجة باوريد واشر عنه شغل أنا ما
maaneejarka shirkadda alaabta keentay ee haatuf iyo madaxa obereshinka shirkadda daalo airline ayaa garsoorka su'aalo ka weydiiyey galkan mudugudoomiye horta annagu alaabaha waxaan ka keennaa dalka China waxaan alaabaha ku keennaa diyaarad xafiisna China aan ku leenahay xafiisna Muqdisho aan ku leenahay customerka alaabta aan u soo qaadayna waxaan siinaa adereeska xafiiska iyaga China ku yaala customerka ayaa xafiiska iyaga China alaabta ku dirsada xafiiska inay tagtaa waa la hubiyaa alaabta shaqaalaha joogo nin Chinese ka shaqeeyo shaqaalaha alaabtu furaa uu hubiyaa kadib waa la xirxiraa wiigi alaabtu halkaan isku diyaarino ayaan soo dirnaa si isbuucla taariikhdu markay ahayd kiiskan soo nagu soo galay taariikhdu markay ahayd 12 July ayaa waxaan u imaanayay flightkeennii isbuucla ahay oo China nooga imaanayay isbuuc walba alaabta keenna marka waxa dhacay yarkan xiran oo Ismaaciila oo madaxa shaqada iyo anagoo xafiiska joogna ayaa waxaa noo yeeray qolada daalo oo alaabta iyadu noo soo Ethiopia Airlines wakiil u ah alaabta noo soo qaado kaliira sigana soo sameeyay xafiiskeeda number 4 na keento ayaa noo yeertay waxay nagu yiraahdeen alaabtiina soo doonta alaabta ayaa idin taale Ismaaciil oo wicitaankoodii ka jawaabay sidii uu Ismaaciil ku baxay markii uu meesha tagana waxa meesha Ismaaciil ka qabtay ciidamada amniga Ismaaciil waxa la geeyay airportka xafiiska nabadgelyada airportka la geeyay waxa lagu yiri alaabtan ayaad keentay alaabtan ayaad shirkadiinu keentay xageed ku wadeen yaas iska alaabta Ismaaciil wuxuu ku jawaabay annagu alaabtan cargo aan ka nahay cidda ku dul qoran oo customerka ayaa iska alaabta waxa la sameeyay laami amniga Ismaaciil wuxuu ku amreen inuu la xiriiro cidii iska leh alaabta Ismaaciil ayaa sidii daahir kula xiriir waxaan daahir ku wargelinay oo alaabtiisa soo doonto alaabtii in loo haayo oo alaabta soo doonto sidii daahir laami amnigana ku qabteen anaga markay intaas marayso ayaa waxaan ugu leeyahay damaanad keensada si la idin fasaxo maadaama laami amniga xaqiijiyeen lahaanshaha alaabta daahir sidii anaga isla maalintii nagu la fasaxay iyadoo meelna loo gudbin 22 September ayaa waxa dhacay in yeerma noogala sameeyay laanta baarista ee nabad sugidda anuu safaraan jiray anuu Hargeysa jiro Ismaaciil ii soo sheegay wuxuu ugu yiri inuu laanta baarista ayaa noo yeertay ana lambarkayga waxaan ku yiri nambarkayga ka soo waceen ii soo dir waxaan sameeyay nambarkayga shakhsiga ayaa nambarkii waxaan ka wacay laanta baarista waxaan ku yiri shirkadda ana maamulka ah Ismaaciilna waa shaqaale maxaana looga baahan yahay waxay dhaheen anagu nabad sugidda nahay kuma sheegayno waxa la idinkaga baahan yahay imaw waxaan ku yiri safaraan jiraa Hargeysa joogaa tigid ma soo jirtaa waxay yiraahdeen Ismaaciil noo soo dir asiga ayaan sii wareysanaynaa markii aan ka dhamaysanane adiga haddaan kuu baahno waan ku yeeraynaa Ismaaciil waxaan ku yiri sida ku tag anagoon ogeyn waxa nagu la haysto aniga 22 September waxaan sameeyay waa safaraan soo galay Muqdisho imaaday isla markii tigidaan soo jirtay Muqdisho imaaday aalanadan leeyma yeerin xiriirlinta ay yeertay maalin dambe sidii aan waxa layga qoray warqad saasa maxkamadda ku mid wax kasta ma soo qaadi kartid idinka gudoomiye waxyaabahan soo qaadina jiro wax walba soo ma qaadna anagu waa jiraan waxyaabo noo go'aansan inaan soo qaadin group waxa jira shaqada oo looga niqaasho waxyaabahan la soo qaadi karin alaabtu markay timaado China ay timaado mostly waxa keena delivery gaari waxa keeno shaqada delivery ku shaqeysa loo soo dhiibaa dadka inta badan wax u keenana waxay yihiin dad inta joogay u badan yihiin oo kasabalaayar kula China waxay sameynayaan dalabkii gudbisanayaan iyagoo inta jooga online ka dalbanayaan sida delivery-ga lagu keenaa xafiiskayga markay timaado alaabta hubinay martaa waxaan hubinaa waxa ku jira iyo dokumentiga alaabta lagu keenay alaabtan maalinta naloo keenayna dokumentigeeda waan hubinay mashiinada meesha ku jiraan aragnay sidii package loogu sameeyay sidii loo soo diray marka gudoomiye waan hubinaa wax walbana soo ma qaadno listi waxa noo diyaarsan aan soo qaadin oo update-na haystaan shaqaaluhu update haystaan waxa kamid ah taroonada waxa kamid ah dharka militariga waxa kamid ah golofyada waxa kamid ah barafuunada diyaaradda loo ogoleen waxa kamid ah power bank-yada intaas bas ma qaadno waxa soo qaadaysaan qofka markuu alaab ay soo qaadaysan dhahay shay uma qorra gudoomiye waxa jira horta qofku inta badan adreeskii naga qaataan intaysan alaabta dalabka sameyn annaga kala ma hadalno alaabta maxay tahay hubinteeda annaga ale markay timaado qofku wuxuu naga heshiiyaa maxaad miisaan ku qaadaysaan inta maalmoodan ku keenayno kadib asaa dalabka dhiibto annaga uu noo soo dirsadaa
annaguna hubinteeda annagaa shaqo ku leh oo hubinoon jeegarayno alaabta markay noo timaado markaasaan soo dirnaa marka hubisi marka waa qortiimo waa qornaa aan ku keenay waa qornaa group aan leenahay daily ah groupkaas lagu soo diraa daily alaabaha la qabto alaabtan la isku haysto ma maqlino shakadeeda waa maqlaha maxaa ku qoray inaad ku soo qaadeen alaabtan waxaa ku qornay mashiin inay ku jiraan daroon inay ku jirtaan maya daroon kuma jirin daroon annaga kuma jirin daroon maba soo qaadi karno gudoomiye waxay soo martay aerobooro badan ay soo martay Dubai ugu horeyso daroon cid lagama ogolan inay soo dhaafto daroon caadi soo ma qaadi karna annagu wadada aad ku keentaan intee waay marka annaga waxaan sameynaa annaga horta xafiiskeena wuxuu ku yaalaa Guangzhou alaabta Guangzhou lagu qabtaa waa la qaadaa Hong Kong la geeyaa si clearance ay u marto Hong Kong clearance lagu marsiiyaa then waxaa loo soo diraa Dubai marka waxaa jiro shirkadda Ethiopia Airlines oo daalo wakiil u tahay ayaan alaabta ku soo qornaa annagu si alaabta transitka ku jirto ay transitka uga saaraan diyaaradda xamar u soo aadaysa ugu wareejiyaan ayaga noo qaabilsan airport markay timaado clearance noo soo sameeyo noo soo qaado number 4 noo keeno kadib aan kala wareegnaa annagu alaabtan markii ay dirsadaan la dhahay alaabtan daahira wuxuu la soo xiriiray Ismaaciil alaabta horta anaga marka hore mashiinay inay tahay waxaas kala ma hadal daahira Ismaaciil la soo xiriiray Ismaaciil wuxuu weydiiyay inta kiilada intay ku qaadeen alaabna uma sheegin saasi xafiiskayga ku timid wixii daahir uu leeyahay cidii keentay iyo cidii kale anaga waxa noo keenay shakhsi ahaan shirkad ahaan waxa noo keenay delivery noo keentay wana alaabta kala wareegnay mas'uulina delivery kala wareegnay alaabta waxaad u sheegtay soo maahan maxkamadda baranjigiina ama laantiina ku taalo China in ay leedahay store facility ama bakhaar weyn oo alaabta cargo-ga la keeno laguna jeekimo waa leedahay waxaa jeekimo ayaad u sheegtay maxkamadda soo maahan qof ajnabiya oo Chinese ah oo aad u shaqaaleysiiseen qof ajnabiya iyo kormeero wiil ka shaqeeya xafiiska Soomaaliya jira asiga shaqaalahaasi waxay ku tababaran yihiin bolosigiina u degsan dalka Soomaaliya iyo baranjigiina China waa ku tababaran yihiin sharaxna u bixi karaa gudoomiye shaqaaluhu waxay ku tababaran yihiin salaam kale mashiinkan hadii loo keeno annaga xaq uma lihin mashiin customer keensaday inaan ka shawito u qaadano boolishiisa aan furno oo wax ku jiro shaqaaluhu waxay ku tababaran yihiin ishoodu waxay qabato diyaaradda soo maxaa la yiraahdaa Ethiopian Airlines inay soo qaado waa jirtaa ma jirtaa in la soo marsiiyay imaaraadka oo lagu sameeyay security check up waa jirtaa ma jirtaa in shirkadda daalo ay soo qaaday dalka keenta waa jirtaa Ethiopia daalo waxay wakiil u tahay Ethiopia Airlines oo ayaga dalka keenay cilmi hay horta see alaabaha loo soo qaada lagu keeno Soomaaliya iyo sida loo hubiyo alaabta hadda la isku haystaan inteed ka soo gashay mudana gudoomiye alaabaha waxaan ku keenaa alaabtan tarasada ay ahayd waxaan ka soo qaadnay imaaraadka magaalada shaariqa ka soo qaadnay sida caadiga markay timaado airport markay timaado screen marta alaabta screenka markay martay shaygan la igu wac maadaama wakiilka meesha ah shayga markaan furay jawaan ku xiraa markii la furay waxaan wiilashii oo hay'adaha ammaanka waxaan ku iraaday waa furay shay caadi oo iska normal ah si furaa la dhahay gudaha si shawita raasada ana salka way ku fariisato aan furnay waxa laga soo bixiyay alaab isku xiro isku sharotaysan ani ma aan garanayn markaas alaabtan waa drone lagu yiri cid iska leh hal raali saacadiga marka alaabta soo bixino oo aan keeno xafiiskeena cargo aan keeno qofka iska leh u yarnaa alaabtan qaado lacagtan nasi wakiilka u ahaa shirkadda oo cargo-gan oo Hatuf Cargo yimid hay'adaha ammaanka yimid ninkaana iska lahayd ku ila alaabta saasan ugu wareejiyay marka alaabta adiga maxaa qabataa ana waxaan operation ka cargo-ga daala airline operation ka ahaa xagga marka laga soo raray adiga ma lagu warsadaa alaab soo qaad lagu dhahaa dad soo warsada way jiraan oo aan hay'adaha ammaanka la wadaago oo ma soo qaadi kara iidadan soo warsanba tan nimankan ma soo warsan maxaa shirkadda inay keento hadda mamnuuc ka ah waxyaabo badan mamnuuc ka ah maxaa kamid ayada waa kamid ayada waay baashaan oo drone waxyaabo badan aad waxaa jira oo anaga soo qaadan tuutaha kamid ah ciidanka wax badan oo agab ciidan oo dhan noocaas u sameeyay anaga waxa waaye waa alaabtan soo marin idinka transitka ka soo qaadeen ana transit ku soo qaadanaha meesha ka soo qaadayseen dambi ma ka ahayn ka dhigan taamaya marka anaga sida imaaraadka agsba uma lihin alaab inaan farafarayno transit ah oo aan baarno agsba u lihinba shayga ay dhahan shaygan ka shakina un bay aan dhigi karnaa aan furi karnaa ayay ka meesha shakin marka idin soo dhiibay ayay ka meesha shakin idin soo dhiibay intii ku hakiyo oo fahmay alaabta inay ayada amaanka screen martay screenka ayada amaanka arkeen arkaa
markaas kadib borseska hadda sheegaysa bilowday baraha sirdoonka qaranka ee NISA ayaa isna laga dhageystay macluumaadka iyo natiijada baarista ku xigeenka xeeralyaha guud ee ciidamada qalabka sida kabtan Cabdicaziis Cusmaan Faarax Cabdiyare ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysanayaashan la dul saaro laguna qaado qodobadii sharciga ah ay ku soo eedeeyeen waxaan soo gudbinay anagoo ku jaangoynayno cadeymaha aan soo bandhignay inay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab oo ah urur hubeysan oo liddi ku awooda qaran una qaabilsan yihiin inay agabyada u soo iibiyaan argagixisada iyagoo doonayo in ay ku dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed qalabyada ay soo galiyeenna uu yahay qalab mamnuuc ka ah in qof shacab ah soo dhoofiyo ama keeno mamnuuc ka ah waxaan sharaxnay daroonta ay keeneen nooca ay ahayd sidoo kale waxaan sharaxnay mid gudoomiye dhawaaq caburyaha ay keeneen qiimaha uu ku fadhiyo iyo nooca uu yahay waxaan ku soo eedeynay qodobka 6aad faqradiisa 2aad qodobka 15aad faqradiisa 3aad iyo 4aad qodobka 18aad iyo qodobka 26aad oo gabi ahaanba ka hadlaayo waxa ay keeneen qatarta ay leeyihiin marka waxaan codsanaynaa in labada eedeysana oo la kala yiraahdo Cabsalaan iyo Cabdulaahi ay maxkamadda ku xukunto qodobadii aan ku soo eedeyn iyadoo uu codsanayso qaabka doorka 114 aan u gudanay oo ah qaabkan soo bandhignay iyo cadeymaha aan soo bandhignay eedeysanaha 3aad iyo 4aad Daahir Cabdulaahi Cali Dada iyo Ismaaciil Yuusuf Siyaad Cigale iyagana waxaa si wada jira ugu soo eedeynay in eedeysanayaasha koowaad iyo labaad oo ka tirsan kooxda al-shabaab inay la shaqeeyaan ayaga koowaad iyo labaad waxa ay soo dhoofiyeen oo ah daroonta aan soo bandhignay qatarta ay leedahay iyo dhawaaq caburyahan aan soo bandhignay waa nimanka u sahlay in waddanka soo galaan una sii sahlay inay sii gudubto oo u tagto kooxda qawaariidta al-shabaab marka waxaan ku soo eedeynay qodobka 6aad faqradiisa 2aad qodobka 18aad oo ka qayb qaadasho ah iyo 21aad faqradda 2aad iyo 18aad ilaa 21aad dhammaantood waxay dhigayaan in dambi ay ka qayb qaateen ma soo bandhignaa waa soo bandhignay waxa soo bandhignay qaabka uu qayb qaateen waxa ay ka qayb qaateen waxa uu yahay maxkamadda waxa ka codsanaynaa in iyana ay ku xukunto qodobada ku soo eedeysanaha 5aad Maxamed Cumar Axmed Jamcaale waa si gaar ah ugu soo eedeynay in uu la shaqeeyay eedeysanaha 6aad Cabduqaadir kaasoo u dhiibi rabay agab maadaama ficilku uusan dhicin xafiisku wuxuu kala laabtay eedeysanaha 5aad Maxamed Cumar Axmed Jamcaale Shaawi eedeysanaha 6aad iyo 7aad oo la kala raad Cabduqaadir Cismaan Wehliye Sheekh Aadan iyo Cali Cismaan Wehliye oo ah laba walaalo oo qoys ah isku aabba ah waxaa nasiib xumo ah in walaalkood ka weynaa falkii lagu soo qabtay oo fulxumada badnaa oo ah inuu qiyaanayo waddankiisa inuu la shaqeeyahay qawaariigta inuu ka shaqeeyay in ay qarxiyaan dhibaateeyaan ummadda Soomaaliyeed in ayagana sidii ay ula shaqeeyaan wali in ayaga laga dhigto isku bedel markii la qabtay walaalkood ka weynaa waxay ahayd walaalkood ficilku ku jiro inay haddii ku jiraan inay ka waatoobaan macna markaas haddii su ku jirin inaysan gelin waxaa meesha ka cadeynay in Cali Cismaan sidii uu la shaqeeyay in Cabduqaadir Cismaan oo Sheekh Aadan loo yaqaano uu sidii uu la shaqeeyay waliba rabay in uu geeyo alaabtan kuyo barow gudoomiye waxaa maxkamadda ka codsanaa iyadoo la tixgelinayo codsiga xafiiska xilaalinta in ay ku xukunto qodobadan ku soo eedeynay waliba xabsiga ugu adag ay dhigayaan maxaa yeelay waa qoys dhammaantood u diyaar garoobay dhibaateynta ummadda Soomaaliyeed dhammaantoodna u diyaar garoobay laynta iyo baabi'inta ummadda Soomaaliyeed maxkamadda ma santa qareennada oo ku dheeraaday difaaca eedeysanayaasha ayaa codsaday in xuriyadooda la siiyo muwakkiliintooda markale waa abukaati Salaad Maxamed Cali mudan gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh waxaan qareen u ahay laba eedeysanaha koowaad iyo eedeysanaha labaad Cabdisalaan iyo Daahir Cabdisalaan waa maqane wuxuu jiraa dalka China anigu soo wakiishay sidoo kale Daahir waa joogiyaa
mudan gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh waxaan rabaa inaan ka difaaco labadaas eedeysane eedda loo haysto ee ah in ay dhulka China ay ka keeneen waxyaabo qarxo sida waxyaabaha hadda maxdarka la keenay mudan gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh anigoo soo koobayo isdifaaceena 116 waxaan rabaa maxkamadda wax yar inaan u ifiyo cabdisalaan iyo daahir cabdisalaan iyo daahir mudan gudoomiye waxay ka tirsan yihiin shirkad cusub oo la yiraahdo Sami cabdisalaan shirkadaas wuxuu u joogaa China daahirna wuxuu joogaa xamar wixii cabdisalaan banaanka uu ka soo dhiibo oo soo marsiiyay shirkado kale ayuu daahir ku salimaa cabdisalaan mudan gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh wuxuu China ka soo dhiibay materialkan maanta maxdarka yaalo oo isugu jira laba shay makiinada shiido qasabka iyo aalad drone ah oo ku dhex jirtay mudan gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh cabdisalaan wuxuu u soo diray cargo-ga la yiraahdo Hatuf iyana waa shirkad xamar branch ku leh headquarter ku leh China ku leh alaabtan marka gudoomiye markii cargo banaanka laga keenayo waxaa la isticmaalaa processkaas waxaa ka mid ah cidda cargo-gaas qabanaydo in ay maaragtay alaabtaas noocyadeeda iyo wixeedoo dhan ay qorto kadibna ay u soo dirto dalka waxaa faahfaahinay mudan gudoomiye garsoore halkan lagu faahfaahiyey alaabtan China ka timid ilaa Muqdisho jidadkii ay soo martay routeskii soo martay mudan gudoomiye alaabtan ayadoo sidaa u xiran oo isugu jirto qalabkan hadda la keenay iyo birtan mashiinka ah waxay soo martay ee ka soo baxday airportka China markay alaabtaas soo baxeedo waxaa la soo raacsiiyey documenti clearance card ama clearance documenti oo tilmaamaya alaabtan in ayna ka mid ahayn alaabaadka la yiraahdo dangerous goods alaabaadka khatarta ah waxay timid airportka Dubai ay timid waxay martay mar kale X-ray raajada weyn ee lagu baaro wax kasta oo khatar ah ee cargo lagu raraayo ee diyaarad iyadana sidoo kale si bad qabta ay alaabtan waxay ugu soo dhaaftay Dubai labadaas fruud markay soo maraydo mudan gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh mid kasto kamida waxaa la soo raacsiyaa documenti sheegaya badqabka iyo tilmaamta alaabtan labadaas magaalo ee waaweyn ee airportadaas leh ayay ka soo gudubtay alaabtan waxay toos soo caga dhigatay airportka Muqdisho gudoomiye iyagana waxay ka guteen waajibaadkoodii hubinta ay ka guteen mudan gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh alaabtaas waxay timid airportkay ka timid waxay timid diyaaradii siday storkeedii timid meeshaas waa meesha gudoomiye marka lagu fatishay alaabtan marka difaaceena ugu yar wuxuu yahay marka mudan gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh aaladan lagu sheegay in ay tahay aalad loo isticmaalo ama inay tahay aalad military hardware qalab military loo isticmaalo ujeedo military ayaan rabaa maxkamadda inaan u ifiyo in aynan ahayn aaladan aalad loo isticmaalo hawl ciidan marka ugu horeeyda gudoomiye waxaan ka hadlaa the nature of this material aaladan daroonka ah materialkeeda ayaan ka hadlayaa daroonka sideeda banaanba gudoomiye 3 nooc ayaa ugu waaweyn nooc waxaa jiro loo isticmaalo civil purpose ujeedo madani ah maxaa kamid ah noocaas waxaa kamid ah mid hadda inta ka muuqato ee loo ekeysiyey inay tahay mid loo isticmaalo weeraro waxaa jirto mid kale oo iyadana loo isticmaalo oo size-kan ka weyn oo ujeedo madani loo isticmaalo ayna tahay ujeedadaas waraabka beeraha kale taas waxay leedahay caagad yar oo biyo lagu shubo mid saddexaad jirto hadda tusaale ahaan alaabtan waxaa laga keenay dhul weynaha China waa dhul weyn oo buurley ah waaye wuxuu leeyahay cimilo kala duwan waxaa jirto daroonkan in maaragta loo isticmaalo qaabkan oo kale u eg in loo isticmaalo xilliyada ay dadka dhulka buurleyda ay degan yihiin ee ku xanibno in la ogaado dadka barafka ama cimilada oo daran waxyeelada ku haayo in la ogaado si loogu sameeyo gargaar diyaarada loogu daro saas
horta ujeeddada koowaad ee daroonka waa mar waa civil purpose waa ujeeddo madaniya waaye daroonka hadda intuu ka muuqdo guddoomiye miisaankiisa markaa fiiriyo iyo miisaanka markii la fiiriyo daroonka loo isticmaalo ee military purpose ama combat operation loo isticmaalo ee hadda xafiiska xeer ilaaliyaha oo ku muujiyey presentationkiisa way kala duwan yihiin maxkamadda hadda waxaa u muuqato daroon ka yar kiilaadkeeda markii la fiiriyo nus kiilo haddii aan dhahno daroonka maanta wuxuu qaadi karaa madaxa arbejeega guddoomiye waa la soo kiileeyey 2 kilogram waaye 2 kilogram iyo nus kiilo haddii la isbarbar dhigo cilmiga scientificada special physicska diidaya taas horta waxaan meesha maxkamadda aan ka tusaa qalabkan meesha yaallo waa civil purpose raajooyinka kala duwan oo soo maray ee waddamadaas annaga naga hormarsan ee rabooradooda ee maalintii 500 oo diyaaradood ee ka kacdo soona degto iyo cargowga intaas la eg China iyo Dubai guddoomiye waxaa cargo ka soo qaada DHL iyo FedEx waxay soo qaadaan waxaan iyo wax ka badan oo xitaa loo baahan yahay inay marto wax la dhahay metal detector hadda materialkan stainless steel waa xitaa singati ma waa bir sidii oo miraayadii oo kale waa stainless steel la dhaha macdankay wax yar ka tabaroon tahay wax kastoo ku jiro waa la arkayaa marka shaqaalaha airportka ay labada airport ee materialkan oo soo maray way u jeedeen waxayna arkeen maadaama ay labadooduba soo fasaxeen waxay arkeen shaygan inuu yahay shay oo aan ahayn military hardware qalab military inuu ahayn guddoomiye midda labaad waxa waaye sida hadda aan ka heeno dood afeedka xafiiska xeer ilaaliyaha waxaa ku jirto yiri materialkana ku jiro dhahay waxaana laga keeno dhahay oo sameeyay wadanka Mareykanka sameeyay okay si maxkamaddu u cadaato materialkan geedkan oo seelancerka in oo wadanka Mareykanka uu sameeyay dawladda Mareykanka Soomaaliya waxaa ka dhaxeeyay iskaashi oo amniga ah Soomaaliya waxaa ognahay waxaa saaran army embargo cunaqabataynta hubka saaran maxaa xafiiska maadaama iskaashi ciidan oo kala dhaxeeyo Soomaaliya iyo Mareykanka kala dhaxeeyaan maxaa materialkan barcode uu leeyahay shay kasta barcode uu leeyahay maxaa loola wadaagi waayay saraakiisha amniga ee Mareykanka markii hore to hadda uu soo bandhigay midaan uu ku tilmaamay guddoomiye midaan waa midda uu yiri China waa lagu sameeyaa yiri laakiin midaan hadda aan heeno oo materialka laga soo bixiyay waa waxa sameeyo dhaay Mareykanka yes marka waxay ahayd ayada laftirkeeda in Mareykanka loo geeyo for analysis si loo tijaabiyo oo Mareykanka u qirto materialkan inuu ka mid yahay aalad ciidan oo istoradiisa ka soo baxay xaqiiqada waxa lagu kaba cadeen in wax la sheego waxa la rabaa in lagu kabo cadeynta aan rabno waxa waaye marka in report-ka soo baxay qaybaha maaragtay ciidanka laamaha Mareykanka ee amniga inay maaragtay soo raacsiyaan ay dhahan yes materialka anaga leh taas lama keenin marka ayadana waxay ka mid tahay okay yes it's for civil purpose waayadan ujeeddo madani waaye mar haddii airportradii ay soo martay ay jooji waayeen guddoomiye intaas waxaa uga baxayaa guddoomiye labada ujeeddo ee loo isticmaalo daroonada maanta dunida laga isticmaalo oo ay u weyn tahay midda hadda meesha la keenay waa shay yar oo nus kiilo ah 2 kiilo ma qaadi karo caqliga aadanaha diidayo midda oo Ukraine waxa waaye guddoomiye markii la fiiriyo waxay ka size weyn tahay middan waxaa markii la fiiriyo maraawaxdeeda waa 4 waaye marwaxad kasta ayna carab kasta wuxuu leeyahay 3 carab uu leeyahay marka oo bir ah hadana laakiin middan waxa waaye plastic waa caag waaye farqiga intaas waaye taas inay bir tahay waxa waaye waxay guuri kartaa waa masaafo fog laakiin midda inay caag tahay waxay ku tusay inay mitir soo karto farqiga intaas waa guddoomiye waxaan rabaa marka meeshaas inaa maxkamadda ka tuso aaladan inay tahay aalad madani ah intaas inaan ka tusaan rabaa mudane guddoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh waxaan rabaa marka inaan u gudbo codsi iyo gabagabo maadaama guddoomiye alaabtan ay 3 wadan oo aad u ilaashan amnigooda iyo howlahooda maaragtay airportada ay soo martay
maadaama magaalada muqdisho ay timid maadaama isla iskaankii magaalada muqdisho oo soo qaba waayey oo hadda madaxa daallo oo tilmaama asaga inuu gacantiisa ku furay oo ka soo bixiyey waxaasoo dhan guddoomiye waxayna tusayaan waxa alaabtan inay tahay alaab oo sifal baarbos loogu talagalay maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa in aanan loo qaadan eedda sida uu u dhigiyey xeeryaalaha waxaan codsanaynaa marka daahir oo ah shaqaale alaabta soo qaado keeno meesha u dambeedo ciddi iskalena ku wareejiyo in maaragtay xorriyaddiisa la siiyo cabdisalaan oo maqano ahna guddoomiye maadaama uu isoo wakiishay waxay tusaysaa inuu diyaar u yahay hadduu joogo xamarna inuu maaragtay inuu maxkamad horteeda iska difaaco taasna waxay ku tusaysaa dembilaawnimadiisa taleefanaduu xiro lahaay imana soo wakiisheen meeshaasna maxkamadda waxaan ka tusayaa cabdisalaan iyo daahirba in ay ahaayeen dad dhallinyaro hal abuur watay oo ganacsigooda inuu u bulaalo rabay marka sidaas aawadeed waxaan jecelahay maxkamadda sharafta leh in daahir xorriyaddiisa la siiyo eedana lagala laabto ninka la yidhaahdo cabdisalaan cumar maxkamaddu way mahadsan tahay mudane guddoomiye mudane garsoorayaal halkan uma soo istaagin inaan difaaco eedaysanahan qareen ku ahay sababtana waxay tahay xafiiska xeeraalinta oo xaq u lahaa sidoo sheegaya 112 intaysan xukunka la gaarin oo eedda ka laabtay eeddii kala laabtay mudane guddoomiye waxaa halkaa u istaagay waxay tahay codsi yar iyo wax yar inaan ka tilmaamo eedaysanaha qareen ku ahay mudane guddoomiye haddana xafiiska eedda kala laabtay sabaan u difaacana ma taalo meesha maxamed cumar shaaweeye mudane guddoomiye waa nin ii sheeg in 2023 hooyadiisa ku geeriyootay ilaah u naxariistay qarax ka dhacay siinka dheer qaraxaas ay geysteen ururka shabaab mudane guddoomiye sabab maantay hooyadiis raggii dilay oo ula shaqeeyo ma taalo arrintaas markaan ka soo gudbo maxkamadda waxaa halkan u soo istaagay waxay tahay codsi yar oo ah awalan in eed kala noqoshada xafiiska xeeraalinta aad u mahadsan yahay ee ciidamada qalabka sida inay maxkamaddu ku waafaqdo waxaa kaloo halkan u soo istaagay mudane guddoomiye in muwakilkayga maadaama eedda lagala laabtay xorriyaddiisa si degdeg loogu soo celiyo ayaa halkan u soo istaagay maxkamadduna waa mahadsan tahay shatiga ganacsi ay leedahay xarunta haatif gaargo mudane guddoomiye mudane garsoore waa ka waxaa shatigan la siiyey isla markaana uu ku taariikhaysan yahay sidaan hadaayaba maxkamadda u sheegay 17 May 2025 waa shatiga ganacsiga ay bixiso dawladda hoose xarun walba ganacsina laga rabo inay sharciyeysnaato una diiwaan gashanaato dawladda way martay habraaci koowaad oo way haysataa shatiga ganacsiga haatif gaargo xafiiska haatif gaargo ay ku leedahay muqdisho waxaan sheegnay in laba xarun ay leedahay ama xarunteedu weyn ay tahay muqdisho ka kalena uu yahay warehouse xarunta muqdisho mudane guddoomiye mudane garsoore shirkadu inay tahay mid jirta xarun leh waxaa cadaynayo in istiigaradii iyo loogooyinkii shirkadda uu ku dhagan yahay boorkeedii iyo albaabkeedii oo aan maxkamadda la wadaagayno sidoo kaleetood mudane guddoomiye mudane garsoore goobtan waa goobta warehouse-ka ah ay shirkadda ku leedahay geyne laguna hubiyo alaabaha laguna xirxiro kadib markii la sameeyo habraaci baarista iyo hubinta ahayd waa warehouse-ka ay geyne ku leedahay ama baqaarka mudane guddoomiye mudane garsoore markii aan eego waxyaabaha shirkaddu ay ka shaqayso waxaa jira maadaama ay tahay gaargo waxyaabo mamnuuc ah oo aysan ahayn in ay keento ama ay soo qaado haddii loo keensadana ay tahay in ay celiso sida uu maxkamadda ka sheegay madaxa shirkadda oo ah maxamed iyo madaxa operationka oo ah eedeysan ismaaciil mudane guddoomiye mudane garsoore sida aan ka arki karnaba warqadan waxaa ku qoran waxyaabaha prohibited-ka ah oo la mamnuucay ama aysan baqaadin shirkadda haatif gaargo waxaa ugu horeeya mudane guddoomiye mudane garsoore military clothes oo ah dharka militariga in ay qaado ama ay keento sidoo kaleetood waxaa mamnuuc ka ah galoofyada militariga ama waxyaabaha gacmaha ay gashtaan militariga ama ciidamada sidoo kale kabaha ciidan ee militariga in ay soo qaado oo ay keento dalka sidoo kale waxaa mamnuuc ka ah power bangiga ama bateriyada waxyaabaha la xiriira baa mamnuuc shirkadana ma soo qaado ogaalna laguma soo qaado waxaa ka mid ah geensiyarada ama waxyaabaha dabka dhaliya oo lagu shido iyaduna waa mamnuuc shirkaduna ma soo qaado waxaa kaloo ka mid ah mudane guddoomiye mudane garsoore waxyaabaha aysan shirkadda soo qaadin qof walba oo customer oo la soo xiriirana lagu wargeliyaa in aanan la qaadi karin barfuumiska sidoo kaleeto mudane guddoomiye mudane garsoore waxaa mamnuuc ka ah oo aysan shirkaddu qaadin daroonada
hadday noqon lahayd mid ciidan iyo sidoo kale hadday noqon lahayd mid wax lagu duubaba hadday soo gasho magaca daroon shirkadda waa ka mamnuuc markii habraaca hubinta alaabta la sameynayana haddii lagu arko waa la celiyaa oo waxaa lagu celiyaa ciddii alaabtaasi lahayd muuqaalkan waa xarunta shirkadda ay muqdisho ku leedahay Haatif Cargo waxaa dhex fadhiyay Ismaaciil iyo qayb ka mid ah howlwadeennada waa xaruntaas weyn aad u jeedo gaarigaasi waa gaarigii xamuulka ahaa ee alaabta ka soo qaadayay xarunta diyaaradda isla markaana geenayay xarunta shirkadda mudane gudoomiye mudane garsoore waxaan aadayaa markii laga soo tago waxyaabahan ay mamnuuca ka ah shirkadda mas'uuliyadda shaqo ee eedeysane Ismaaciil muxuu Ismaaciil u xil saaran yahay ama shaqadiisu ay tahay si loogu eedeeyo mas'uuliyadda ka gaabis markii koobaad markii la ogaado shaqadiisa ayaa la dhihi karaa waxa ka gaabisay mas'uuliyad shaqadiisa mudane gudoomiye mudane garsoore Ismaaciil Yuusuf waxa uu ahaa madaxa operationka shirkadda waxa uu ka howlgalayay xarunta ku taal magaalada Muqdisho mudane gudoomiye mudane garsoore habraaci mas'uuliyadeed ee hubinta alaabtaasi daahir uu soo dalbaday marka ay ku sugnayd xarunta Geyna ama warehouse-ka wata sawirkan waxa ka muuqda mudane gudoomiye mudane garsoore haddii aan maxkamadda u iftiimiyo qofkan qaawan ama maxaa la yiraahdaa dhabarkiisu sii jeedo waa shaqaalaha ka tirsan shirkadda Jayneska ah kanna waa delivery-gii alaabta keenay waxaa la hubinayaa isla markaana lagu mashquulsan yahay waxay tahay kartoomadii la keenay in la furo lana hubiyo inta uusan bixin ninkan delivery-ga ah sababtoo ah ninkan delivery-ga haddii uu baxo alaabtan waxyaabo mamnuuc ah haddii aan ku aragno waxay nuga noqonaysaa inaan dib u raadino laakiin waqti xaadirka uu ninkan joogo waxaa la sameeyay kartoomankii in la furo lana hubiyo alaabtan in ay tahay alaabtii macmiilku hore u sheegtay iyo in ay tahay alaab ka duwan taana waxay cadeynaysaa mudane gudoomiye mudane garsoore in habraaci iyo mas'uuliyaddii naga saarneed hubinta alaabtan in aan hubinay waxyaabihii mamnuuc naga ahaa iyo in kaleetan inay ku jiraan waan hubinay tilaabada xigta waxay ahayd mudane gudoomiye mudane garsoore alaabtu waatan inta aan la furin kartoonka maxkamadda siday ka dheehan kartaba kartoomanka waa labo waxaa ku qoran daahir waxaana saaran telephone numberkiisa 78352 kartoonka marka la keeno sawir laga qaadaa cidda ku qoran iyo magaceeda iyo telephone numberkeeda kadib waxaa la sameeyaa in la furo lana hubiyo waxyaabaha ku jira inay yihiin waxyaabo mamnuuca iyo in kaleetood waa tilaabo xigta oo baarista ah oo lagu sameeyo ama hubinta sawirkan waxaa la soo dhigaa mudane gudoomiye mudane garsoore sidoo kaleetood WhatsApp ay ku shaqeeyaan madaxa shirkadda iyo shaqaalaha kale shirkadda ka dhaxeeya si loo ogaado shaqada la qabtay iyo hawsha la qabtay waxaa kaloo jira mudane gudoomiye mudane garsoore in warqad lagu sameeyo listi ah oo dhammaan isbuucaasi gaargooga xaruntiisa Geyna alaabtii timaaday dhan la qoro lana sheego daahir lambarkan ayuu kaga jiraa alaabo badan oo 500 ilaa 800 kg ayay isbuucaasi shirkaddu keentay magaalada Muqdisho oo ay dalbadeen muwaadiniin Soomaaliyeed oo fara badan waxaana ka cad in alaabta ay ahayd nooceeda laba shay ay ahayd kg-geedana ay ahayd 50 kg mudane gudoomiye mudane garsoore iyadana warqadan waxaa la marsiiyay habraaci waxaana la soo dhigay groupka ay ku shaqeynayeen shirkadda hubinta nooca alaabta waxaa lagu hubiyay mudane gudoomiye mudane garsoore waxaan sheegnay in marka hore kartoonka la sawiro sidoo kalena la furo lagana hubiyo alaabta mamnuuca iyo alaabta kale oo la qaadi karo waxaa laga soo bixiyay isla markaana mudane gudoomiye mudane garsoore markii la furay warqadan waxaa ku sawiran mudane gudoomiye mudane garsoore siday maxkamaddu arki kartaba waxaa laga furay kartoomanka ay alaabtan ku jireen wuxuu fiiriyay shaqaalihii Jayneska ahaa alaabta ku jirta kartoonka banfalaadkii ama warqadii ugu horeysay ee la socotay mashiinka ayuu fiiriyay sida maxkamadda ka arki karnaa waxaa ku sawirnaa mashiinada noocaas awood iyo access uma lahayn in muwaadin Soomaaliyeed alaab uu u soo dhiibtay lagu soo aaminay xaruntiisana la keenay in uu qaato boolbool isla markaana uu furfuro kumana jirin tuun arintaas la xiriira maadaama aan si caam ah oo guud aan u baahinay in aan waxyaabahaas qaadin isla markaana ay mamnuuc naga tahay waxaan sameynay mas'uuliyad kale oo ah in aan hubino warqadii kartoonkan aan furnay alaabtaasna laga soo bixiyay warqadii la socotay waxaana la dhigay isla markaana la wadaagay shaqaalihii shirkadda oo waxa la soo dhigay groupka mudane gudoomiye mudane garsoore hubinta alaabta markii ay timaado waxaa jiro groupkii in uu soo dhigay ninkii Jayneska ahaa uu la wadaagay madaxii shirkadda xogta ku saabsan warqadan oo ah markii koobaad oo alaabta la soo dhigay
برسيسك أي مرتو يمسؤوليتها لقى قلت على أي كميتها مدن قد بي مدن قرص رسا هرا وعدينا بشركات هرا أي إسجدي دي لعقت لقو شقية كبدن على لقو مكينين lacagtii lagu shaqeeyay lacag ka yar ayaa wali lagu keeno discount ayaa u sameynay macmiilka laabtan oo keenay laakiin mudane gudoomiye mudane garsoore sida ka muuqata warqadda aan maxkamadda hore ula wadaagay lagama garanaynin mashiinkan ama alaabtan inay ku jirto daroon waxa la furfuray alaabtan kadib ayaana gudaha alaabta laga arkay sidoo kale mudane gudoomiye mudane garsoore haday Ismaaciil oo madaxa operation shirkadda ah uu qabo tuhin ah alaabtan in aan keenay ama waxyaabaha halis ah inaan dalka soo gelinay waxa uu sameeyay tilaabada koowaad oo qaad waxay ahayd in markii shirkadda laga soo wacay la yiraahdo alaabtiina soo doonto uu tagay sidoo kalena laamaha ammaanka uu ku garabsiiyay gacan weyn uu ka geystay bilowga kiiskan iyo waxyaabahan oo idin xeerlaalinta sharaxaadan iyo eedeysanayaashan ay eedeysay dhamaantood haddii uusan Ismaaciil sameeynin xiriiradaasi uusan isku xirinna ma aysan bilaabateen mana dhamaateen sababtoo ah Ismaaciil markuu xarunta tagay asigoo nabdoon si niyad samiyo ku yiraahdo alaabtan aniga ma lihi kaargo ayaan u shaqeeyaa shakhsigaas ay la soo xiriiray alaabtan isaga iska leh isaga idin wacaya waa uu wacay waa uu balamiyay xaruntii bakaare inuu ku balamiyay ayay nabad sugid u sheegeen kadib waxa la yiraahdo ku balami xarunta shirkadda ay ku taalo kilometer 4 xaruntii uu geeyay muwakkilkayga mudane gudoomiye mudane garsoore isla goobtaas ayaa markii ninkii daahir ahaa la wareegay ay ku dhaheen laamaha ammaanka waad fasaxan tahay oo wax tuuna kuma qabno maadaama siniyad samila uu la shaqeeyay sidii ayaa lagu soo fasaxay ninka lagu magacaabo Ismaaciil waxa dhacday in muddo kadib ay la soo xiriiraan laamaha ammaanka Ismaaciil muddo ayuu haystay maadaama bishii 21 ama dabayaaqadeedii bila la soo xiriiray hadduu qabatuun ah alaabahan inuu xiriir la leeyahay argagixiso ama urur uu la shaqeeyo waxa uu sameyn karaa inuu dalka ka baxo inuu doonto inuu mobilkiisa xirto in uu maxaa la yiraahdaa laamaha ammaanka uu ka doonto cagsigeeda xiriga maanta uu xiran yahay muwakkilkayga waxa uu ku yimaaday bajaaj raac uu lacagtiisa ku soo bixiyay ama jeebkiisa uu ka soo bixiyay mootuu soo raacay waxa la yiraahdaa xarunta noogu imaaw isaga xarunta ku yimaaday lugihiisa waxayna cadaynaysaa niyad samida iyo in uu maxaa la yiraahdaa tuhun qabin oo uu laamaha ammaanka inuu garab siinayo ama uu u yahay maxaa la yiraahdaa cadaaladda garab uu isku haystay ama uu yahayba mudane gudoomiye mudane garsoore maadaama Ismaaciil uu garab weyn ka qaatay furfurista iyo helista eedeysanayaasha kale la eedeysan waxay ahayd in xafiiska xeerlaalintu uu u isticmaalo marag sida uu ugu isticmaalay maraga ama xog wareysiga madaxa operation shirkadda wuxuu ahaa qof xog ogaala sheekada meeshay ka bilaabatay ilaa meesha ay mareysana waa uu sheegay sidoo kale xafiiska wuxuu cadeeyayba in Ismaaciil iyo shirkadda uu la shaqeeyaba la dhaxmaray lagu naqiyay alaabtan oo ahayd machine lagu dhaxqariyo alaabtan oo aan la arki karin ishii hore qabatana aysan fahmi karin waxay ahayd in si dhalinyarada Soomaaliyeed ugu dhiiradaan gacansiinta laamaha ammaanka una garab siiyaan in eedeysana Ismaaciil laga dhigo marag lana dhaafo sababtoo ah qof walba oo garab siiya isla markaana caawiyo laamaha ammaanka haddii uu tuhnaad ku soo galay waa lagu xiraa la yiraahdo laamaha ammaanka waxay weynayaan dhalinyaro la shaqeyso oo dhalinyaro walba xogta hayso inay qariso ayaa suurtagal ah mudane gudoomiye mudane garsoore maxkamadda waxaa la wadaagi doonaa cadaymihii aan horay u sharaxay oo qoraalo ah iyo sawiraantii iyo habraacii hubinta aan marsiinay mudane gudoomiye mudanayaal garsooreyaal maxkamadda sharafta leh muwakkilkayga waxaa lagu eedeeyay qodobada qodobka 6aad faqradiisa 2aad qodobka 18aad iyo qodobka 21aad ee xeerka la dagaalanka argagixisada hase yeeshee markii la fiirsho dhacdadii iyo arrimihii halkan ka dhacay dukumeentiyada aan soo gudbinay markhaatiyada intuba ma tilmaamayaan eedaha ku saabsan qodobadaas iyo wax la xiriiro oo lagu heli karo ama lagu eedayn karo muwakkilkeena markaan soo qaadno su'aalihi aan weydiina baaraha waxa kamid ahay Ismaaciil wiligiis kooxaha argagixisada qayb ma ka noqoy kuwa gudaha iyo kuwa caalami ah wuxuu yiri maya wiligiis ma la shaqeeyay maya wax xiriiro la leeyahay ma hesheen maya waxaan sidoo kale weydiinay dadka la eedeysan marka laga reebo daahir inta kale wax xiriira oo Ismaaciil ayaga dhaxmaray ma jiraan waxay ku jawaabeen maya sidoo kale xiriirka daahir uu la sameeyana waan tilmaano waa xiriir ku koobnaay alaabtan uu daahir dalbaday ee la soo qaadayay ee deliveryga ah arrin ku saabsan oo kaliya laakiin ma jirin xiriir ka horeeyay ma jirin waxyaabo hore u dhaxmaray taas marka waxay ku tusay kiiskaba halka meel oo ka soo gali kara inay tahay
maadaama uu ahay shaqaale ka tirsan shirkadda Hatuf ee ah shirkadda kaargowga ee alaabaha dalka keentay kaliya inuu ka soo geli karo operation kana ay shaqadiisuna ahayd markii alaabtan la keeno oo kaliya aan ka koobneen kuwa halkan yaale kumanaan ahayo dad Soomaaliyeed loogu adeegayay inuu dadkii lahaa ku wareejiyo markii dambe hay'adaha amnigu ay arintan soo guda galeena si fiican uu la shaqeeyay kaalin weyn oo ku qaatay waana la cadeeyay سادرادي مدن قدومي مدن القرصوريال موكل كان لغوما دقايا قضب كل حاد فقرة اللبات سواء سوسو درتو كو horta xubin kama aha weligiisna kama noqon urur argagixiso oo dalka ka jiro oo mid caalamiya waa arrin aan isku raacsanahay weligiisna kama mid noqon haddana ka mid ma aha sidoo kale lama shaqayn labo lama keenin maxkamadda waxa cadaynaya ha noqdaan markhaati ha noqdaan dukumeenti ama cadayn kale oo tilmaamaya in uu gacan siiyay ama la shaqeeyay ama uu wax ku darsaday weligiis urur argagixiso caalamiya nuuc raba ha noqday ama urur dawladnimo diidsan ama cid kale oo nidaamka dawladnimada ka soo horjeeda mudane gudoomiye in qofku uu ka shaqeeyo shirkad dalka ka diiwaan gashan oo shaqeyso ee agab qof u soo dhiibta keentay in qofka lagu eedeeyo shirkadaas aad u shaqeysaa agabkaas la keenay ayaad qofkii loo waday u wareejinaysana dambi ma noqonayso waayo mudane gudoomiye mudane algarsoorayaal agabkan maxkamaddu way arki kartaa marka aan fiirinayno shirkad delivery markii laga hadlaa maxkamaddu dabcan ayada iga aqoon badan kaliya laguma fiirinayo il amni kaliya laguma fiiri karo waa in il ganacsina lagu fiiriyo kaargow markii laga hadlayana dadka kaargow wax soo saartay ama ka ganacsado ama ganacsila ayaa yaqaan waxa uu yahay ma aha kaliya marka in kaargow alaab la soo saaray qofku dambiilo inuu hore ka noqonama ama il amni in lagu fiirsho kaliya ma aha dhowr sabab dartood marka koobaad horta alaabtan xagee laga soo raray alaabtan waxa laga soo raray dal laga soo dhoofiyo agabka iyo hubka iyo argagixisada iyo dadka nidaamka dawladnimo diidsan dal tuhunkaas oo kala jira miya horta laga keenay mise waxa laga keenay dal amnigiisa la og yahay horumarkiisa la og yahay miya laga keenay taas horta inay isweydiino alaabtan horta xagee laga keenay China laga keenay Soomaa China maxkamaduna ha baarto cid walbana ha ogaato China waxyaabaha ka mamnuuca qof caadiya agab ciidan wuxuu raba ha noqdee ganacsi ahaan loogama gado waa arinta koowaad la isweydiina labo China ma aha duni saddexaad ma aha waa dal aeroboor caalami ah leh qalab casri oo ka casrisan qalabka aeroboorradeena yaala sidaa daraadeed kaliya kuma aamino warehouse-ka qof kale ama bakhaarka qof kale oo inta alaabta iska qaado iska baxo diyaarad hore kama kay gariyo diyaaradda waxa geey waxay tahay waa shirkad waxyaabahan gudbiso China laga leeyahay shirkadaas qofka warehouse-kan le ama cargo-ga le ayuu la tacaamulaya alaabtii u dhiibaya shirkadda markii alaabtii la dhiibaya alaabaha dunida loo wado gobolada China gobol kamid ah mid walba kamid ah waxa la security waxa la yiraahdaa check up security lagu la sameeyaa shirkaddu marka waxay sameeyeen qalabkii waxay marsiinee check up security-gaasay marsiinee mar allaali markay marsiisay kadib ma aha qofkii caadiga ah waxa alaabta deliver gareynaya oo u gudbinayo diyaaradda ma aha waa shirkadaas China laga leeyahay shirkadda markay alaabtaas gudbiso baaristaanka lagu sameeyo toos ayaa diyaaradda loo saaray alaabtii marka taas waxay ku tusay xitaa dawladda China inaynan ogolaan qof caadi oo warehouse leh inuu inta la tacaamulo alaab inta qaado aeroboor ka geeyo diyaarad saarto ma ogolo shirkad dhan ay jirto oo dawladda u xil saaran shirkadaas la tacaamula lacag ku qaadato ayadaa qaadi alaabta ayadaa marsiine baaritaanadii looga baahnaa kadibna ayadaa u soo gudbinaya meesha loo diray haddii diyaarad la saarayo iyo haddii si kale lagu dhoofinayo mudane gudoomiye mudane garsoorayaal maxkamadda sharafta leh markaan fiirino China oo kale marka tiknoolajiyada la fiiriyo arrimaha amniga waxa la yiraahdaa wadamada ugu horeeya aeroboorada sidoo kale waxa ku soo xigo imaaraadka waa wadanka asagana wadamada ugu horeeya kamida amniga marka la fiirsho cargo-ga iyo waxyaabaha saaran qaabka loo baaro mudane gudoomiye mudane garsoorayaal muwakkilkeena waxa loo keenay horta waa alaabtan oo sidaan u taalo xirxiran oo ayada dhanba markii la arko hadda qof walba anaga naga mid markuu arko mashiinkaas oo xiran oo sidiisa markii mashiinkaas la arko qof walba anaga naga mid markuu arko mashiinkaas oo xiran oo sidiisa kuma soo dhaxayso daroon way aqligeena xitaa ma keenayo waliba ninka Chinese-ka sababta loo keenay waxay tahay mashiinadan asaga yaqaan iyo wax loo isticmaalo qofka Chinese-ka maadaama dalkiisa waxa lagu sameeyo waxa ku qoran oo yaqaana mashiinkan waxa ku qoran inuu yahay mashiin hilibka lagu shiido ganacsi ahaan waa loo sameeyaa dalka waa la keenaa laba mashiinkan kala qasabka lagu shiidaa
jayna lagu sameeyaa farta ku qoran iyo waxa ku qoran oo akhriyay sidiisoo u qafilnaa waa isku xirnaa haddaba mudane guddoomiye mudane garsoorayaal marka ganacsiga laga hadlayo shirkad delivery shirkad cargoa oo alaab loo keensado ujeeddo ganacsi loogu keensado markii mashiinkan loo keeno mashiinkan oo laga yaabo in ujeeddo ganacsi loo keeno xaq miyay u leedahay inta furfurto oo boolbool u dhilqiso inay hubiso wax gudaheeda ku jiro marnaba suurtagal ma ah waayo ciddii ganacsiga u keenaysa alaabtan markii la furfuro sida originalkeeda ma loo gadaa mase loogama gadanayo caqliga saliimka marka marnaba ma keenayo qof kastoo alaab soo delivery ima cargo u geysatana wuu yaqaanaa u keenay marnaba mustaxiil waxaa ah oo aana dhici karinba in agabka noocaana ee mashiinkaana cargowgi loo keenayay dalka keenayay ee qofku Soomaaliga u keensaday ama qof kale u keensaday ee adeegay khidmadda laga siiyay inta qabto oo inta boolbool u furo oo inta ogaado waxa gudihiisa ku jira arrin dhace ma ah cid kastana waa la weydiin karaa si taas lamida arrintaas oo kale mudane guddoomiye taas markii laga soo tago alaabahan waa la soo baaray laakiin baarista yaa iskale qofka jooga warehouse-ka baarisiisa waxay tahay inuu ogaado war waxaan mashiinkii lagu heshiiyey ma taamise ma ah mashiinka uu fiirinayaa dhinacyadu ka rogayaa farta ku qoran oo jayniska inuu mashiinkii hubinayaa mas'uuliyadda saaran waa inuu kan hubiyo waxa ku qoran arko miisaamo yaa iskala marka waa su'aashu waxay tahay inay hubiso amniga waxa ku jiro inuu jack up security jack up in lagu sameeyo awood u leh shirkadda ay u gudbiyaan oo alaabta soo dirta ayaga ma inta qaado qofka warehouse-ka joogaa hore airport-ka kama aadayo ee wuxuu u dhiibayaa shirkad Chinese ay jirto shirkaddaas mas'uuliyaddu saaran tahay shirkaddu inta qaado ayadaa marsiiso habkii baarista sameeyay waliba gobolada Chinaha Afrika markii loo wado gobol oo maray jirta alaabtu ay marto waa ka baarista markii la yiraahdo hubinta waa ka muhiimsan waana ka daran yahay markii America loo wado kale America alaabta loo wado sida loo baaro looma baarayo Afrika alaabta loo baaro kale gobolka laga baaraya la marsiiyay waa la soo baaray markii lagu qancay wax khatar ah inayna jirin tiknoolajiyada China aan ognahay agab ay soo saari weysay ay u arki weysay inayna khatar bulsho ku ahayn aniga ma aqaan tiknoolajiyada Soomaaliya taalaao sida ay u arki karto alaabta sida lagu soo qaaday niyad samidaas ay wakiilinteena ku soo qaadeen boqolaal lamida oo dad Soomaaliyeed niyad wanaagsan ay u soo qaadi jireen adeegan u fududay jireen markii dalka la keenay maxaa dhacay dadku gudaha arrin waxa jirto markii alaabtan dalka la keenay waa la barsiiyay airport-ka security jack up-ka waa la marsiiyay waa aqbash tuhun dambe oo yimid iyo dalkeen oo mushkiladu ka jirto waxyaabahan oo kale inay dhaceen aragti ay sii haysteen hay'adaha amniga keentay in la furfuro ee aragti wixii meesha yiilay iyo baarista la sameeyay iyo qalabkii lagu baarayay wax ka soo dhax horta alaabtan lagu ma ogaan waana sheegay baarihi marka maxkamadda aan su'aalahaas weydiinay wuxuu yiraahday shaki yimid laakiin xaqiiqdu waxay tahay mid kamid xitaa inta maray ayaa gadaal looga daba yimid labadu waa mareen wax uu soo sheegay ma jira baarista la sameeyay laakiin shakiga iyo waxyaabahan oo dhici jira darteed ayay hay'adaha amnigu sidaas u sameeyeen mudane guddoomiye sidoo kale muwakkilkeena qodobka 18aad xafiiska xiraalinta uu ku eedeeyay ayadana lagu ma dhaqaayo waayo muwakkilkaygu si ogaal ah ama si kalaba qayb uga ma noqon fal argagixiso kaalina kuma yeelan fal argagixiso qodobku sidaas uu tilmaama wuxuuna qodobku tilmaamayna qof lagu ma eedayn karo qofkan waligiis shabaab ma noqon argagixiso ma noqon cid lama shaqayn gacan kuma yeelana la leeyahay hadana waxa leeyahay waxa lagu eedaynaa fal argagixiso inaad qayb ka noqoto arrin iskeena ayadana ma ah sidoo kale waxa la yaqaan alaabtan meesha u socotay cidda soo dalbata la yaqaan muuqaalka alaabta la arkaa si meel loogu hagaago bari oo looga daba tagi karaa jiray sida daraadeed ma jirto laguma dhaqayo muwakkilkeena qodobka 18aad ee xafiiska xiraalintu ku eeday sidoo kale qodobka 21aad ee ka hadlayo gacan siinta iyo hagidda fulin fal argagixiso ayadana waa arrin ka sii daranba koow ma jiro horta cid ku fooganayd fal argagixiso uu caawi ama uu gacan siiyay muwakkilkeena waa arrin aan isku wada raacsanahay labo ma jirto cid uu hagay ama uu fududay ama uu khibrad siiyay si uu fuliso fal argagixiso in mashiino qasab lagu sameeyo ama hilib lagu sameeyo shirkad gaago ka shaqeynayo ay dalka keento ayadoo sida ugu munaasabsaneed lagu soo hubiyay inuu cidi lahayd inta soo qaado ku wareejiya ayadana kama dhalanayso inuu argagixiso iyo koox argagixiso iyo wax la mid ah uu gacan siiyay ayadana kama dhalanayso sida daraadeed annagana waxaan leenahay qodobkaas ayadana eedda ku qoran iyo dhacdooyin ku qoran lagu ma dabaqayo
sidaa daraaddeed sababahaas annagoo cuskanayno iyo difaacii ay soo gudbisay abukaataa dacwadan igu welis waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanaynaa kow inay beri yeesho oo muwakilkeena ka beri yeesho dhammaan eedaha lidka ku ahay lagu soo eedeeyey in eedaysanaha aan qareenka u nahay si degdeg ah loo siiyo xurriyaddiisa loona celiyo maxkamaddu aad iyo aad u mahadsanta markaan gudugalo difaacayga maxkamadda sharafta leh muwakkiliintayda waxaa lagu soo eedeeyey qodobka 6 farqadiisa 2 number 1 baaraha iyo hay-addii soo eedaysay oo intaana gacanta ku haysay marna ma sheegin meel tababar isku soo qaatay ama argagixisa soo biiray oo uu mid noqday qodobka 6aadne waxaa lagu soo eeday karaa qofka markuu tababar soo qaatay meel uu tegay la hayo horta number 1 argagixisada ma kamid yahay ururkaas ma kamid yahay waa maya waxa kala meesha taalo qodobka 15aad farqadiisa 3 iyo 4 ayadana shaqo kuma laha liiskan argagixisada oo la keenay shaqo kuma leeni waxaa kala meesha taalo isku haystay maanta saaki ilaa hadeer uu fadhino qodob la soo jeediyay baritation la soo jeediyay qalaba meesha la keenay anaga maxaa ku leenahay muwakkiliintayda Ali Cusmaan Weheli Cabdiqaadir Cusmaan Weheli maxay ku leeyihiin alaabtaan horta oo meesha la keenay iyo wax alla wixii meesha laga soo jeediyay maxay ku leeyihiin maxkamadda sharafta leh taasa wax aan ku leenahay oo Ilaahay abuurtay ma jirto waxay ka dhigan tahay saddexdii nin oo yiri bakaylaha la soo qabto labada nin bakayle keentay nin wuxuu keenay dameer marka waxa la yiri ninka dameerka keenay maxad u keentay dameerka yiri bakaylan ah saasa u soo waday saas amalay ka dhigan tahay alaabta meesha taalo iyo muwakkiliintayda warkooda markii la raadiyo wax shaqo ah oo ay ku leeyihiin maxkamadda sharafta leh midna ma jirto maxaa yeelay shaqadooda oo dhan way kooban tahay suuqa bakaaraha ay joogaan qol yar ay kireysteen labadooda waxa uu horeeyay walaalkooda ka weyn oo cidna uu sii weyn oo ayaga sii koriyay busteejidana waxa waaye jad ka jad waay maxaa yeelay qof uu dhiibaa ninka walaalkooda ka weynaya way joogaa oo busteejidaas asalka shaqay jiray nin kale oo walaalkiisa meeshii ku wareegayay waa cuslaaday ninkii waa dadaas oo barbaraan bay waxba loo waxyaalay waa la xiray kadibna walaalihiisa ninka la yiraahdo Ali Cusmaan Weheli hadana ku soo wareegay cali waa la xiray Cabdiqaadir hadana mar dambe yiri meesha maadaama ilmaha biilkooda iyo wixii laga helo saasa horta silsilada ay ku tahay xafiiska xiraarintan wuxuu yiri waxa u shaqeeyaan ururka al-shabaab nin walba nina uu bedelo qof walba waxa la yiraahdaa ninkan markii waxa loo bedelaa hebel waxa loo soo bedelay hebel aaw nafteeda bedeladeeda warqadii cadeynteeda keen waa sax in la helo waay warqadii lagu soo bedeli oo lu yiri Cabdiqaadir meesha waa ka baxay hebel waa ka baxay hebel ha ka shaqeeyo busteejidaas ha shaqeeyo ma jirto intaas oo dhan waa war iyo wax kama jiraan waay maxkamadda sharafta leh waxa kala meesha la keenay warqad la yiri warbixin oo ah waxa ay xiriir la leedahay waxa ka soo qaadaa Cabdiqaadir أبو وكلكية عثمان وهدية أبو وكلكية موبيل كيس وماشان وحكو قرن لو نمبر محكمة شرفت له وحربنا أنا موبيل اللي هي عبد القادر هان نمبر اللي نمبر كاس وحو وعي نمبر كيجا أنا نمبر كيجا وحو وعي عبد القادر عثمان وهليو وعي عبد القادر عثمان وكري عبد القادر عثمان وهلي وحا إسوعين ساعة هبلا إسوعين 6 ساعة إسوعين 9 ساعة إسوعين لبي طبعا كبيك إسوعين تارق هبلا إسوعين إنا ورقداس ورتا يكون موقته ورقد وحكو تالو لبا نمبر فورو 6 أفرتلي 9 سيدتلي 5 سيدتلي لح نينا إسكاله وماشي فديو موكلين تي ما نمبر كلامش وقرن فورو لبا لواتن الله إبر لواتن الله وحلير جرادة أسكله وافيرن أسد علي
أسد نليراها كقرن مقع جراد ليراه مكقرن شقنا كملها أنا جانا من نقانه ميل أسنا سوق لنا من نقان حد هدي موكلين تي لويدين ما يقانا شقنا كملها وحاكلا ليرا ألاب تاسا لو سو ذي وحانا كاني ننا الله سواعي صحوة وأنا الله سواعي قاسة عبد القادر والله وعي محكمة دنا وأوشيك قفوا حسك قريب مالي قور مال سواعي ما أنت اللي سحري قلبتي كور رئيس الله سواعي حل أسخرب حيس كتجي شقة كتجي مركز وير أنا شقة وكتجي وأنا مكانها هاي لكن قفا ماشي جوجو وورديها بخارك قولكي أيجا إلى هاي أنا ساحضو ألعب تأسيها لوجيو وح ألعب لوجين مجرن كاس هبين كاس ألعب ملوجيني وح ماشي الله صو صاري موبايل ذي يو عتان ذي يو وح اللي هذا عدد كل صوب بندقاي كل واحد عن ساعة دي موكل كي اللي سو حراي والصو صعدب أسيغل وصو صعدي وعتان كاس اللي سو عيو يحرتان كيسي يوح كل اسكو وقت واي محيال سلمان أنت اللي سو حرايا وعتان كاس يحرير كاس وداي goobtii shaqana waa loo tegi kow alaab marka anaga busteeja joognaa busteejida waa la yaqaanaa qof walba waxba ka shaqeeyaa gawalada baabuuran aad nimanka busteejida joogo dooraya qabooy waay nin bac wata la hebel kaale mal yaqaano meel socdo mal yaqaan kaal adiga safar ina si hal ogaadi kaale baabuur ma rabtaa haa baabuur rabaa باور كذا باور نوع سربا أنا كواي بس شك أنت هسا بستيجي لتاجيه ما أنا بستيجي وأنا عن وحشنا ماله وحالي رألاب تانا دو وحودي براوي ساحدي ألاب براوي يسعتي وأنا أي تماضو مركي قعنتي أي قشو باور كأن سارو دم بجد مركز أنا أقات ما فيرسي ما أركتي ما وحيا شيء هليرا لكن ألاب يسوع قارن شقة نقول هن بستجدت كشقيسها أو كلي اللي شقة أي تاهي محكمة شرفت له حرك عقابته قضب كيس كواد محو دنب ويقانا دنب محواير بستجد للتاغو ضد لكيري أما باور لسارو أما ميل لقي ضد دنب مياه لعق ضد كاس بستجد $5 أما $6 أما $8 لا يقاطو ضد كاس لا يقررو حتى ألعبت باور تقاعد أيسهن أيضا نفتح الدم بمياه ومي قضب بذا الشرعي وحيرك اللي دقال لك أرجح سده وموكلين تي هذا الجزء هذي قضب كيسة كواد كبلا إلى قضب كسدحات نفتيس وحس شرحها وحيالها حيرك الدم بأسويقانو لنو شرحها أنت ما أنت الشيء واحد دم بأه وأنا أقول لنا هاي موكلين تي ذي كليهن وما أنت اللي كان محكمة شرفت له وح شقة أي كليه مجر وحاي سهري قضب داس حركة قضب كواد واحد بس يقام له رأو شاقي قضب داس إذا قضب كل حد يشان التمناد فرقديس الدحاد أفراد يسدد التمناد اللواتن اللي حد وحاي هاد حفيز كحرر على أنت إنه عدا يسير لير كان أسوء فاي أو كله بقول طبعا بقول لحدين يسدح iyo 114 oo cadeemaha isku soo bandhigay maanta waxay ahayd inaas cadeeyo muwakkiliintayda waxa loo sheegay qazaalad iyo makiin cawitaan oo kartoon ku jirto in loo keeno doono ma loo keena naftooda kuwaan inay yihiin ina shay kale oo bare ay yihiin oo maqay yihiin naftada wax cadeey karaa ma la keeno cadeynteeda lama hayo haba mantuuran way maxkamadda sharafta leh maadaama waqtigu hayo dood dheerna aan galnay waqtigan aan salaadii duhurna wala aan dukanin waxa ku soo koobaa cali cusmaan weheliye waxa la soo xiray 5 bishii shanaad 2025 waxa asu xiran yahay oo dambi ah waa lagu soo wacay aan ahayn maanta ma hayo maxay anaga boqolaal soo wacdo telefoon aan aqoonana soo waxay yihiin ma naqan wacitaan dambi ma xeerkana dambi kama aha حركة لدجالك الدم أو لدجالك الرحلة الدم كماها حركة سومالية الدم كماها لابد واحد دم مسكيا ماله والوصوع أو كلية السحرية عبد القادر رساسه كلواي والوصوع علاوات قادسي نكاسة كوصوع السحرية لابد هذا قدومي نمن نديد بستيج التقان بستيج أدجوكتو ملكاس أدجوكتو قف والبو أكوصوعي
هوينا الصباع مالنا الصباع وحاسبة لكن مهمة وحيتها دات كان أرجع حسد ما كمديهين مو شقيان ومايا محكمة شرفت له عدين هذا المكان أنا أشقيان حفيز كلا سواي مكان إن حرير إلى ليهين مكان وحشقة حتى ورقة حسب العسكر معايا وحلو صقروا كلي عبد القادر عثمان وهلي وحريرنا ملا محكمة شرفت وعقد سنة يا موكلين تيدا أنت أي دبتودين أي حرنايين أي دبكوه محكمة شرفت لا يدو قادنا سو بقول لواتر اللوا حيركا habka ciqaabta Soomaaliya islaamaanta hadii xuriidooda ay helayaan la siiyo hadii ay heleen si degdeg ina maxkamadda uu shuurayso xuriidooda la siiyo maxkamadda sharafta ay mahadsantahay maxkamadda waxa ka codsanay maxkamadda sharafta horta waxa ka codsanaa xuriidii inay siiso أنا waxaa codsanaa xuriidii la siiyo sharafta waxaan ku codsanaa xuriideeda la siiyo maxkamadda sharafta waxa ka codsanaa inay xuriideeda siiso maxkamadda sharafta waxaan ka codsanaa xuriideeda la siiyo gaashaana sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaana ugu dambeyn fadhigan soo xiray cabdi fataax khiyaar warbaahinta qaranka muqdisho